dilaaga saxafiga waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono silsilo soo taxnayd muddo oo lagu ugaarsanayay wariyaasha taasoo uu dhexda ka hayay xasan xanafi xaaji oo ahaa markiisii hore wariye ka soo shaqeeyay idaacado ay ka mid tahay idaacaddii maxalliga ahayd IQK ee muqdisho oo markii dambe ka mid noqotay idaacadihii al-shabaab lilaqaysteen xasan xanafi xaaji cabdisalaan waxa uu noloshiisa inta badan ku soo dhex qaatay al-shabaab waxaana uu ka mid yahay horjoogayaasha ugu caansan kooxdaasi marka loo eego tacadiyada ay geysteen waana shakhsigii kala shaqayn jiray kooxda ugus ee kis al-shabaab dilalka wariyaasha soomaalida ah haddaba xasan xanafi waa kuma isaga ayaa noo sharaxaya qayb ka mida noloshiisa magacaygu saddexaan waa xasan xaaji xanafi xaaji cabdisalaan taariikhdeedii anigu sida cad waxaan ku dhashay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan ku soo barbaaray isla magaalada muqdisho dadku gobolladu tagtago marka laga reebo inta yar oo hawshii nimankaas kolley shabaabka laaya aan la waday oo aan gobollada soomaaliya dhinacaan u aadayay marka laga reebo inta kale waxaan ahay nin reer muqdisho ah muqdisho ku wax bartay dugsigii hoose dhexe muqdisho ku dhammaystay sare muqdisho ku dhammaystay jaamacad ka mid ah jaamacadaha soomaaliya waxaan ku yaala garaan muqdisho ka wax bartay sanadii 2003 dhammaadka bilowgeedii ayaa waxaan ku biiray raadiyo muqdisho codka shacabka oo markaas uu maamulayay injineer xuseen maxamed ciidiid dabadeeto 2 bilood kadib waxaan ku biiray إذاعة القرآن الكريم IQK إذاعة القرآن الكريم كا دكتور الشيخ دار محمود قيلة ودوميكاها ملكية ديالنا ولها انتاس مركان كبيرة إذا عدوا إلا لابد أكون لحدي أم تتغذي إرادة وعلى شقيني وبهنتا IQK أنا سلا إن عكلا كودي هو شاء لا شقينتا نمنكاس نوحان أنا وأهم سنة وها الشقدي دي أنوتو xilliyada shaqadu aan ka madax banaanahay oo aan shaqada isu soconina in aan iyagii aado ayaan isku wadi jiray labada shaqo maadaama jumcada oo kale idaacadda quraanka waxay aad min laga shaqeyn jiray marka laga reebo barnaamij aan ka lahaa oo jumcada nasashada jumcada la dhigi jiray oo soo gali jiray fiidkii hal saac 2 saacna ka bixi jiray marka laga reebo inta kale jumcada laga shaqeyn jumcadii xaggaan aad jiray maalmaha kale reporter aan ku bilaabo shaqadii inta marka warkayga kansado ayagaan aadi jiray sida ayaa ku isku shaqeyn jiray labada dhinac sida ka muuqatay baa xog badan horay aan wada ogeyn ana xasan maqalkiisii ugu horeeyay waa markii halkaan aan imid raadiyo muqdisho gaar ahaan kiisas aniga horeeyo rag badan oo saaxiibo halkaan ka shaqeynaya lagu dilay ugu horeeyay Allah u naxariistay abkay kiiskii lagu dilay maqalkiisa waa markii ugu horeysay aan maqlay waxaan markii aan maqlay in kiiskaas qofku lug lahay oo nimankan dadka dhibaateeyo oo dadka dila inuu ka mid yahay markii aan maqlanay ana hada sawirka aan ka qaadanay waxa uu la mid ahaa sawirka aan ka heystay dhamaan nimankaas guud ahaan waa anigu hal sawir oo dadka dad dila waa naxariis lahayn sawirka aan ka heystay oo ahaa sigana kaas baan ka qaatay cabsida ay ka qabaan xasan xanafi wariyaashu waxa ay tahay inta la eg oo ay ka cabsanayaan al-shabaab mid la mid ay ka cabsanayaan aniga xasan xanafi aqoon uma lihi mana aanan aqoonin laakiin maqal ayaan ku maqlay waxaana ku aqaanaa oo aan ku maqlay inuu yahay nin u qidmeeya al-shabaab shirqol iyo maribna u maleega wariyaasha Soomaaliyeed waxaan ku maqlay in uu dilal qorsheysan ka soo bilaabay wariyaashii waaweynaa ee Honafriq Mahad Axmed Cilmi iyo ninka la dhigi jiray Cali Imaan Sharmaake ilaa ma dilalka ay ka yimaadeen in wariyaasha baabuur lagu horjarto ama kali loo dilo oo mid loo shirqooshana waxaan ku maqlay in xasan xanafi team uu hogaamiyo oo dhowr wariye ah wariyaasha ku dhex jiray oo dhexdooda marina ka abaabulayay oo shirqool u dhigay inuu ka mid ahaa hormuud oo u yahay asiga iyo team la yiraahdo Yunis Jibriil nin kale la yiraahdo Stella waxaan ku wada maqlay dhamaantood rag u qidmeeya al-shabaab oo shirqoole wariyaasha oo u maleega dabino lagu dilo wariyaasha waxaa la ii sheegay inuu rag badan oo wariyaasha dalka joogay gaar ahaan raadiyo muqdisho uu dilay waxaa la ii sheegay abkay ninkii la oran jiray ee u shaqeynayay raadiyo muqdisho markuu qabtay buu hore ka soo hadlay isagoo wali dilin abkay baan haynaa waana dilaynaa buu yiri meedkiisa soo doonta
rag idaacaddaabaa ka qabtay oo codkii ka duubay kadibna meydkii baan doonana soo qaadanay xasan isagoo wariye ah ayuu sidaad maqlayseen muddo ka mid ahaa ururka al-shabaab inkastoo markii dambe ay bilaabatay tuhumo la xiriira howlaha u qarsan waxaana uu xasan markii uu dareemay in loo tuhmaya howlihiisa al-shabaab uu iska aruuriyey warbaahinta isagoo si rasmi uga mid noqday ururka al-shabaab oo ka soo qabtay xilal kala duwan waxaa shaqadeeda igu dhiirigeliyey oo aan ku biiritaankeeda sabab uu ahaa in la yidhaahdo aadan xaashi faarax cayrow oo isaguna diyaarada dagaalku maraykanku ay ku dileen magaalada dhuusamareeb caasimadda gobolka galgaduud ee gobolada dhex Soomaaliya sanadii 2004 aakhirkeedii ayaanan ka mid noqday rag maleeshiyaad ah oo lagu abaabulayay meel ay ula baxeen mucasirka Salaaxudiin oo ahayd khabarihii Talyaaniga oo ku yaala degmada Hiliwaa degmaan inay tahay ayaan rajaynayaa dabarka dambe isbitaalka ay ku taalay dabadeeto in muddo ayaan la shaqeynayay dagaalkii waxaa bilowday la dagaalanka ururkii isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyo u dhaxeeyay midowga maxkamadaha islaamiga oo ay qayb ka ahaayeen raggaas oo markaas shabaab iyo lagu yeereeyay magaca jiil jadiid iyagoo kala ah 3 baarti oo kala ah baarta uu hogaaminayay aadan cayro oo meesha saldhig u ahaa baarta uu hogaaminayay sheekh Cabdullaahi Mukhtaar oo hadda dawladda Soomaaliya kamid ah iyo baarta kale uu hogaaminayay wadaadkii la jiray Sheekh Xasan Turki inuu geeriyooday inta xabsiga ku jira lagu sheegay magaalada Kismaayo inuu ku geeriyooday ilaahay kuma darnaadee kamid noqoshadii ururkaas iyo ku dhiiritaankeygii iyo howlaheygii anoo wata ayaan xaggana tegi jiray iyadoo markaas ay ku xirnaayeen raggaas muddo kooban lacaga ay ka heli jireen rag ganacsato ah ama rag ay iyagu u aaminsanaayeen in ay diinta u gargaaraan oo shirkada qaar ay lahaayeen waxaan ku raadaa raggaas qaarna rag dibad joog ah qurba joog ay ahaayeen dadka anigu waxaan kamid ahaa dhabtii ragga salariga qaata ama mushahariga ah anuguna wixii ku tabaruci jira naftayadii iyo maalkayagii jiray isla meeshaas in la yiraahdo macna Shacbaan oo asagana ku dhintay meel leeyahay Girisoor oo dalkacay agteeda ah ayaa igala wareegi jiray hawshuna sidaas ayaa ugu mid noqday 2007 bilowgeedii ama bishii 3aad aan idhaahdee ayaan si dhab ah ugu maxaan ku raadayay ishaab biiray al-shabaab markii la shaaciyay dabadeeto ayadoo amir guud loogu magacaabay inta la jiray Axmed Cabdi Maxamuud Godane oo markaas isku magacaabay Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abu Zubayr waa sida iyagu u yeereen dhabtii wada shaqayntii muddo kala duwan kadib waxaa laga mid dhigay maktabka iclaamka murfaafinta baahinta xarakada shabaab mujaahidiin anigoo markaas mas'uuliga dhigay dhanka xiriirka bulshada ama warbaahinta madax banaan iyo tan al-shabaab markaas wargeyslay al-jihaad iyo website la yiraahdo al-jihaad.com ama .net labaduba ahaa xiriirka ka dhaxeeya afayeenada hadlaya iyo waxa xarakiga ah ee soo baxayo iyo cid loo gudbinayo iyo sida loo kala maareynayo mas'uul kaga noqday markii koowaad al-shabaab markaan ku biiray waxaan kamid ahaa maleeshiyada dirirta oo magaalada Muqdisho qoryaha ku sidata howlgal gaar ah oo ay qaban jireen ma jiro marka laga reebo ilaahay kuma darnaadee in maxkamaduhu goolay midowga maxkamadaha islaamiga Soomaaliyeed wax la yiraahdo jiri 9 maxkamadood ay ahaayeen oo gudoomiye president madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ka horeeyay waxaan ku raadayay isha gudoomiye ka ahaa soo way caawin jireen iyaguna howlahooda gaarka way fushin jireen meeshaas ayaan xarun u ahayd dadkaas ayaan kamid ahaa meeshaas ayaa qoryaha lagu tusi jiray waxa kale oo saldhig caafimaad u ahayd oo meel ay ka duulaana u ahayd markaas la jiray Ubay ibn Kacab oo ku yaala asagana isla degmada Yaaqshiid dhabarka dambe shirkadda la yiraahdo warshada baastada ay waxaan ku raasay saldhig u ahayd caafimaadkooda uu ka duuli jiray howlahooda ay ku wada jiray markasho sawirka guud marka la bixinayo waa meel markas ah oo dadku ku wax bartaan laakiin sawirka gaar ahaaneed ee meesha ku jira waa meel rug caafimaad u ah al-shabaab shaxsada aweysana gudoomiye ugu magacawnay asaana markaas fadhi jiray xafiiska Ubay ibn Kacab sidaas ayayna labadaas saldhig ayayna ku lahayn Muqdisho Cabdullaahi Macalin Mukhtaar dhinacaan degmooyinka Yaaqshiid iyo Cabdilcasiis Shibis Boonder dhinacaan adigu reerihiis ay degan yihiin ay asayna ka shaqeyn jireen
marka ragga kale reer maxaan ku raadin Turkiga xasturkina dhinaca jubbooyinka jira waxa ka dhaxay waxay ahayd in isku gurmadaan qoladii culays la soo saarna qolada kale ay u gurmato intaas baa ka dhaxay siiraad laakiin kala amiir ay ahaayeen dad badan fikir kama haystaan sababta loo ugaarsado wariyaasha laakiin xasan xanafi oo loo haysto dilalka wariyaasha intooda badan ayaa sharaxaya sirta ka dambaysa qaarajinta wariyaasha Soomaalida maanta Muqdisho warbaahin fara badan ka jira idaacad fara badan ka jira telefishin fara badan wakiilo ka sameystay Muqdisho shabaab dadka dhan ama wariyaasha dhan waxay ugu xukumayeen xukun gaalnimo ah waa ku celinaya gaalnimo ah laakiin salaad si u kala horeeyay loo dukaday Soomaalidu tiraahdo maanta cid shabaab ay cadawtooyada kala dhaxeedo waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada caawinaya AMISOM inay nabadda noo ilaaliyaan u yimid Soomaaliya waxa aan brief gareysanahay oo aan aaminsanahay waxay tahay nimankaas maamin Muqdisho ma joogo wariyo ilaa inta la shaqeeyay mooyee inta kale waxa ay ka aaminsan yihiin in xukun gaalnimo ay ku jiraan xukunka ay qaadanayaan murtad ay tahay in la wada dilana ay dhiigooda iyo maalkooda ay u banaan tahay maalmin ayaamna salaasi ku la qabatay salaasi u kala loo kala dukada ku sheegayaan la kala horeysiinayo maalinba maalin ninba maalin ajashuna haday kari karaan gacantooda ay ku jiri lahayd al-shabaab ajashu gacantooda haday ku jiri lahayd waa hore wariyaal ka shaqeeyeen Muqdisho laakiin ajashu gacantooda ku jirna unfortunately maxaan ku raadaan unfortunately ajashu gacantooda kuma jirto so dad badan oo maanta dawladda Soomaaliya kamid ah waxa ay aaminsan yihiin oo al-shabaabna kamid ahaan jiray in ay wariyo ee Muqdisho ka shaqeeyay maanta xukunka al-shabaab ee ka aaminsan yihiin ee xukun gaalnimo ah xukun dhiigooda iyo maalkooda in uu u banaan yahay laakiin wariyaashu ma oga sirta ka dambeysana waxa ay tahay in laba mid ay tahay waa midda koowaad in loo kala hormaro in al-shabaab la qiimeeyo wariyaashu murtadiin maahan waa dad runtii hawl aad iyo aad u fiican ummadda Soomaaliyeed waxay waa dadka Soomaalida noloshooda go'aamiyo weeye bedela dhinac u bedela nabadda u bedela dib u heshiisiinta u bedela horumarka u bedela ganacsiga u bedela waa dad runtii hawl aad iyo aad u muhiim ah oo nolosha Soomaalida lagu adjust gareeyo u wada dadkan weey qiimo leh laakiin qof qiimo leh uma rabaan wariyaha dilayaan aqoonyahanka dilayaan sarkaalka dilayaan wasiirka dilayaan caruurta dilayaan qof kasta oo ah murtad oo ah qof kasta oo ah qof diinta ka baxay laakiin iyada diinta ka baxay waxa jira mar aan xirnaa oo aan maqlay tuuriyare oo hadda taliyahana suuqda qaranka maxaan ku raadayay isha dawladda Soomaaliya inuu u bixishay maadaama magac shabaab waa dhalinyartaana inteenan hadda isla joogto iyo in badan oo Soomaaliyeed iyo adduunkuba dhalinyaro sharafna wala han kartaa xumaanna wala han kartaa war magacan waa disheen maxay ku disheen nimanku magaciisa dhalinyartu ay dilayaan aan soo celino maxaa loo baxshaa ugu saal yiraahdo ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed hal yiraahdo duxiga dambeeyo annaga magaca al-shabaab waa la bedelay waa la socotaa way ku mahadsantaa wasaaradda warfaafintu inay hay'adaha amniga ay runtii ay ayadoon laga fariisan xataa ay totally ay maxaan ku raahdaa ay magacaas hirgelisay al-shabaab wax la yiraahdo al-shabaab magac macnaheedu waxa weeyaan waa dhalinyarana magac fiican waaye magaca fiican inaan u ogolaano maahan in la wasaqeeyo cadawgan aan la dagaalamayna waxaa la yiraahdaa ugus waxa weeyaan waxa laga soo gaabshay waa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee halkan fadhiya midda dawladdu ay maamusho oo runtii aan shaqo weyn haysa iyo kuwa kale oo ayaga naftooda shaqo weyn haya inta aan ku soo biirin inay ku soo biiraan maanta kadib waxa loogu yeerayaa official name-ka oo nimanka ay leeyihiin waa ugus ma doonayno inaan idaacadaha al-shabaab ka maqalno al-shabaab inaan idaacadaha ka maqalno ma doonayno Come dulmi wado dadka dhiba aan la
isagoo sii sharaxaya xasan ugaarsiga wariyaasha waxa uu ajandaha labaad ee loo dilo wariyaasha ku micneeyey in laba midood ay noqoto warbaahintu mid meel marisa ajandaha kooxda iyo mid la aamusiyo habab kala duwanba ha loo maree waa marka labaadoo ah in wariye ama idaacadooda ka madax banaan ama wariye aanan wariyahooda ahayn in uu Soomaaliya ka howlgalo labadaasba way ku jirtaa waa in aan helaa ajandaha xafiiska uu ku shaqeynayo waxaa kaloo qasaba inaan helaa ajandaha ka soo baxay xafiiskayga cid meel mariso haddii bulshada noqoto haddii dadka Soomaalida ama internationalku in loo sheego noqoto inaan helaa ajandaha xafiiskayga ka soo baxay cid kale oo gudbiso so masti waxa ah cabsigelinta ma imaanayso haddaad wax dilin ma imaanayso wax cabsigelin ah waa in marka hore lagaaga dambeeya cabsi aadisha Cabdilcasiis oo aad aadisha Jaamac oo aad aadisha Cabdullaahi oo aad aadisha Xuseen oo aad aadisha Xasan oo aad so Cabdiqaadir kan iyo maxaan ku geedigan iyo Fulaankan kale Axmed kan iyo Maxamed kan kale marka inteena la dilo it means waa cabsanayaan waxay ku dhiiranayaan booska ay mareen ragii saaxiibada ahaa hamari waa wax ay ka dib dhigayaan booskaas isku marin so cabsidaas meesha way soo galaysaa qodobka labaad oo ah in wax allaala wixii ay rabaan loo sheego ma dhacayso ilaa ay wax cabsigelinteena qayb ka tahay waa wax jira ayadoo inta badan waxaan maqalnaa wariye ayaa la dilay iyo mid baa la dhaawacay waxay dad badan isweydiinayaan inay jirto koox u diyaarsan qofkii wariye sheegtaba in la iska dilo iyo in la dilo oo kaliya wariye ay soo sahansadeen oo kadibna sidaas ku dilaan wariyuhu cidda dilayso maxaan ku waa amni sida aad sheegto waa qoladii mas'uuliyadda ahayd cidda amraysuna ma ahan inuu asaga is amray wala soo amraa islaac la'aanna ma min ruux bistoolada wato asan islaac amrin ma fuliyo fariintuna sahan weeyaan sahankan qofku uu sameeynaya mar alla markuu sameeyo maxaan ku raadiyaa waxa la rabaa in la dilo Cabdilcasiis oo adiga ah in la dilo waxa soo sameeynaya ninkan oo Cabdilcasiis meel ku ayaa soo sameeynaya anigoo ah ruuxii wax dilayay iima soo sheegay wuxuu u sheegay ninkaas oo ah ninkii amiirka u ahaa isaga amiirkii wuxuu soo wacayaa waa amiirkii islaac ninkaas amiirkii islaac wuxuu wacayaa amiirkii guud amniga markii uu waco waxa dhacayso ilaahay kuma darnaadee warka ah maxaan ku raadiyaa ii sheeg fulinta ah wuxuu soo wacayaa madaxii dililka qorsheysnaa ayuu soo wacayaa madaxii dililka qorsheysnaa wuxuu wacayaa axadka meesha uu joogo Cabdilcasiis oo Muqdisho ah ruuxa mas'uulka uu ahaa ruuxa mas'uulka uu ahaa ayaa wacaya degmada Cabdilcasiis joogay degmadaas ayaa dad u dirayo sidaas weeyaan processka way islaac la'aan bataatan wax dhaca ma jiro silsilada dilalka wariyaasha la bartilmaameedsanayo waxay ka soo bilaabatay allaha u naxariistee Mahad Axmed Cilmi oo xilli aroornimo ah lagu dilay meel u dhow xaruntii Hoon Afrika Daynile waxaana dilkaasi oo aysan jirin cid sheegatay waqtigaasi la tuhunsanaa inay ka dambeeyeen kooxda ugus ee Al-Shabaab oo waqtiyadaasi ay baranayaan dadka Soomaaliyeed waxaana la aaminsanaa in Xasan Xanafi ahaa shakhsigii shirqoolkaasi soo maleegay wariyaal ka tirsanaa shirkadii warbaahinta Hoon Afrika waxay sheegeen inay maalmo ka hor intii aan la dilin Mahad ku arki jireen Xasan Xanafi maqaayad yar oo ka soo horjeeda Hoon Afrika halkaas oo uu fadhin jiray isaga la fahantiisu ma diidana Xasan inay halkaas isku arkeen wariyaal ka tirsan Hoon Afrika way jirtaa warka aad sheegaysid hal maalin ay ahayd rag Hoon Afrika shaqeeyay inaan isku aragnay Hoon Afrika ismiye ay ku taalay hadda ma garan karo cid degtay waxa ka soo horjeeda Pibita subaxii lagu cabi jiray qaxwo iyo sambuus ama isku qabsi wax la yiraahdo mashmashi sambuus aniguna aan degnaa dhabarka dambe ee Pibitada waxa dhici jirtay markaa in subaxii markaan salaada soo tukado masaajid garaashta ku yaala soo tukan jiray lacagta ah waxaan soo fadhiisan jiray goobtan markaan soo fadhiisto dabadeed waxa dhici jirtay inaan ku shaaho ama ku qaxwo cabo wariyaashan Afrika warka 2 saac ayay u soo shaqo tagi jireen hal saac iyo xoogo ay imaan jireen deeto qaar iyaga kamid ah ma aha mostly ama badana ma la dhihi karo qaar iyaga kamid ah way dhacday in aan isku aragnay maalmaha kamid ah xasuusanahay aan dhihi karo hebel iyo hebel ama hebel bas oo ahaa in aan meeshaas sheegaysa aan isku aragnay way jirtaa aniguna markaas meeshaas maqaayada meesha ka dambayso ayaan guri ahaan degnaa laakiin ajandahaygu ma ahayn dilka Cabdullaahi Kulmiya kamid ah
أحد أن عبد الله كلمية هين اسمه أنا أرمش عبد الله كلمية عدو waxaa jirtay in waliba mar kaliya ma aha in aan dhowr maalmood aan ninkan la yiraahdo Xasan Xanafi aan xilliga shaqada aan u socday aan ku arkay meel yar oo maqaaxi ah oo waa hal qol oo gabar sahra la yiraahdo ay Hoon Afrika horteeda ka sameysay oo raashinka iyo shaaha iyo waxyaabahaas ay ku sameey jirtay meesha isagoo fadhiya waxay ku dhaganeed guriga agaasimaha Hoon Afrika Ahmed Abdisalaam oo albaabka Hoon Afrika ay toos isugu beegnaayeen marka Xasan Xanafi dhowr subaxan meesha ku maray dhowr subaxan arkay isagoo xataa waxaan arkay aad fahmaysid nin deegaanka ah inuusan ahayn sababtoo asaga wuxuu isugu ka sheegay inuu deegaanka yahay waxa geed degan tahay guryahan dambe Falastiin iyo Axmed Cabdisalaam dhabarkooda deganahay marka waa in meeshaan aan deganahay intaan xoogaa shaah iyo qaxwo iska soo doontaa xasan xanafi waxa uu ku doodayaa inuusan waxba ka ogeyn dilka Mahad laakiin markii la dhaawacay kadib ay al-shabaab ku wargeliyeen inay dileen Mahad Axmed Cilmi kadibna loo diray inuu soo xaqiijiyo dhimashada dhaawac sida uu yahay xaalka Mahad marka la dilay ragii dilay qaar nin amiir u ahaa ayaa soo wacay anoo hurda meel iskool ah Cabdiraxmaan Yuusuf al-Cadaala yaqaan iskoolka aan anigu ka dhigi jirto Tawfiiq Brothers anoo jiifo soo wacay deeto maxaan ku raadayay isho wuxuu irinayo ninkaasaan dilnay xabaduna madaxan ugu dhufanay daawac in lagu qaaday ayaana la ii sheegay soo warkaas hubi waxaan waa arag guriyaal ah maxaa oo karmacda kamid ahaa nin la yiraahdo Xasan Muuse Sabriye oo hadda in Europe I think inuu Europe joogo aan u maleynaya maxaan ku raadayay aan wacay gebigood cid alla la cid yuriyo aan waxaan Afrika shaqeeyo way ilmeenaysay oo kar Maxamedan VOA hadda wakiilka waa Muqdisho kamid ah way ilmeenaysay markii dambe Xasan Muuse ku waciliyay Xasan Muuse waxaan ku wax ii sheeg see wax u jira deeto wuxuu yiri waxaan joognaa isbitaal Madiina ma hadna wuxuu ku jiraa saalada isbitaalka waxaana lagu sameeyay doonaa khaliin halisna wuu yahay intaasna kuma dhaafi karaa soo ilmeenayo igu yiri markaas bagaari market ah ayaa ii yaalay garaash igu dhow gaarigii aan la soo baxay nin la yiraahdo Maxamuud Cali Yare Punayste oo riye ahaa oo hadda asayna dhintay maxaan ku raadayay Muqdisho ku dhintay 2014kii hadda ahaa ayaa markaas ii dhawaa ninkii aan watay isbitaal Madiina aan aadnay isbitaal Madiina aan joognay saalada mahad ku jiraan tagay meesha Doore rag badan isku aragnay Falastiin Axmed Xaaji rag badan aan meesha isku aragnay Uriyaala waa ka tacsiyay meeshii xaaladeeda mubiir ragii soo waciyeen waxaan ku raadayay isbitaalka saaladu saariya suga adigu xawaali 3 saac iyo xoogo maray ahayd daqiiqada la socdo ma sheegi karo ayaa soo baxay dhakhtarkii wuxuuna wargeliyay geerida Mahad inuu dhintay markaas xaalad adaga lagu jiray oo runtii argagax leh dil wuxuu ah kii noogu horeeyay oo qof saxafi ah si bareera loo geysto waliba anagana la shaqeynahay marka dareenkayga hadda aad ugu xasuusto inuu soo wacay laakiin waxaan qiyaasaa dadka soo wacay inuu ku jiray sababtoo ah laba qof oo kaliya ay soo wacayba Xasan Cadde iyo qof kale inuu asaga ayaan jecel qof rag u nahaa qofkaas dabcan Mahad ma dhintay ayuu yiri mise waa dhaawac marka waxba kama sheegi karaan aniga markaas xaalad deganaan aan ku sugnaa jawaab aan si xataa ilaa hadda ma aqaan Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsanaa wariyaashii Hoon Afrika ayaa sheegay inuu ku arkay Xasan Xanafi wadada warshadaha isagoo wata gaari kuna sii socda isbitaalka Madiino idaacadan imaanay shir degdeg ah la galay in aaskaas aan ka qayb galno oo hawshaas la qabto dhowr gaari la qaatay anigu waxaan raacay Xasan Cadde Xasan Sheekh Axmed Cadde يعني واسرعني جاري قاره وتيان رعني اسبيتال كمرك لا ادي او شركي دعده و دماداي wadada warshadaha marka aan ku dhacnay xirada gulwadayaasha agtooda check point oo ciidamada dawladda ah ayaa xilligaas ku yaalay check point-igi markaan istaagnay oo aan soo sheegnay ayuu hadan dhabarkeena ka hadlay Xasan Xanafi soo gaari yar watay markaas wuxuu anigana wariyan ay ragaana ba yaqaan anigu markaas ma ogin kooxdan ama barnaamijkan oo ninkan ku jiro
wuxuu noo yahay nin wariyaha oo idaacadda qur-aan kariimka ka shaqayn jiray. xasan xanafi waxa uu guta hawshii u tagay isbitaal madiino waxaana uu kooxdiisa ka siiyey warbixin xaaladda mahad oo ugu dambayntii ay dhakhaatiirtu xaqiijiyeen inuu dhintay. kadibna waxa uu ka qayb galay la tashi laga sameeyey halka lagu aasi doono mahad axmed cilmi, isagoo markii dambena ujeeddadiisu ahayd inuu diyaariyo habkii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake oo ahaa agaasimihii hoon afriig. wuxuuna xasan wax ka soo qaaday meydka mahad oo janaasadii lagula tukaday masjidka sheekh cali suufi, halkaas oo isku arkeen xasan raggii dilay mahad oo uu sheegay inay ka doodeen sidii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake. raggii dilay mahad goobtaan isku aragna masaajidka iyagoo damacoodu yahay in cali iimaan goobta ay ku dilaan. way wargelsheen waxa ayna yiraahdeen in ay rabaan in cali iimaan isla goobta cali iimaan gaari leeyla calaawi madow ah langruusel ay ku qorantahay watay inay rabaan inay meesha ku dilaan. waan ka naxay marna waa la yaabay. nin la yiraahdo Ukaasha Farxaan la yiraahdo magaciisa asal oo ku dhintay meel la yiraahdo Coolgod dagaal u dhaxeeyay al-sunnada ka tirsan gobolada dhexe qaybo kamid ah iyo al-shabaab ku dhintay ayaa isoo amniga markaas mas'uul ka ah. wuxuu yiri gaariga oo wato waa nuucmee. waxaan ku iri waa leela saaray rag guriyaala ila saarnaa oo kamid ah maxamed ibraahim raagi hadda dhintay oo baahinta qaranka u shaqeynaya kamid ah rag noocaas ila saarnaa waa leela saaray aan ku iri laakiin gaari la gruusel waa. marka intuusa aan dhihin ayuu wuxuu igu yiri gaarigu aan gadan rabno waa nuucee. asaa waxaan ku iri gaariga aan gadan rabno waa gaari la gruusel ah kalarkiisa ma qurxan yahay waa nuucee kalarkiisu yahay. markaas wuxuu qaadanayaa xog ah gaariga nuuciisa إلا مسوا جاري كلا أستجيا وحوجه إفتن مش اللي هاي خبرات بركات مكلاس على كتالله أيوه جوا جاري وحنقول جاري مدوائل عن جلوس رانا كقرن مذبح أنا إلا مدينه وما صنتوي نللي هذا الصندال عبد السيادة مت خبراء أنا قلت شوفنا حتى حنقول هذا إشاء تقصيلا أنا وودي باور كيسا وصارناي نكاس وحويل وحنقول هذا إشاء نيو باور نوع عصبي على إمام مركز شجرة أدو كهاي ماشي شجرة أدو كهاي جاء مين أنت دكتور خبرك الجرنا مين اللي دياري علي أنا على باور رافع فورة أي نود حي علي يعني سهل رايترس وشقيني iyo Falastiin iyo darawalka afartoodii ku saarnaayeen baawarka ay la calaawida ah miinadii loo dhigay sida ay rabeen ay u noqotay cali ayaana meesha ku tagay anuu jugtaan maqlay meel godaan ka soo baxay markaas biyo roob ay biyo freeze ay ka soo baxay jug aan maqlay baawarka bareegan u qabtay raafa forti waxa saarna doorar irag lamid ah saarna maxamed doorar irag lamid ah saarna iyagaana iga horeeyay meedka cali baawarkii aan ka soo degtay waa imid intaan meedka arag ka hor halkaan inay aheedaan qiyaasaya inay ka gashay miinada firirkeeda waxa dhacday mahad raadi cali inuu dhintay goobta mid ahaan looga soo qaaday meedkii waa la qaaday waxa la geeyay qabuurihii maxay ahayd barakaad qabuuraha barakaad intaas waa nala socdeen raggan ku jiro xasan xanafi mahad intaan la aasina waxaa la yeeshay kulan oo cali uu dhex taagan yahay oo aad ka arki doontaa sawirka waxaa go-aanku loo qaatay in la damiyo idaacadaha muddo 24 saac gudahooda iyadoo laga jawaabayo arrintan dilka mahad oo bilow ahaa dilkii saxafiyiinta cali idaacadda BBC dalaanteeda afka Soomaaliga ayuu wuxuu siiyay wareysi markaas ugu hadlayo shaqadii mahad Allah naxariiste iyo dilkiisa iyo inuu ahaa mahad nin u doodi jiray ama u hadli jiray dadka amaarta codkooda meel dheer gaarin shaqaduna aysan istaagi doonin Allah naxariiste mahad waxa la aasay labadii duhurnimo calina markaas BBC ayuu wareysi siiyay kadib markii mahad la aasay waan soo baxnay baabuur badan baa la isla socotay cali waxay isla socdeen Falastiin Axmed Iimaan iyo sahal yar la yiraahdo oo writers inuu ka soo qaado u yahay jeclahay sahal markii la soo baxay baabuurta aad u badneed gaariga ka horeeyay cali ayaan saarnayn wadadu waxay ahayd marka meel biyo ku jireen roob da'ay miinada marka waxaa la geliyay meel baabuurka uu saas uga yar leexanayay oo dhiiqada saas looga baxayay qaraxan maqalnay markaan qarax maqalnay gaarigu istaagay
qaraxa dhacay kadib waxaa la sameeyey marka waa la soo degay gaarigii halkaas ku dhacay iyo allah naxariista cali imaan oo meelahana wax ka gaarin halbowlo go'ay lugna ay jaban tahay ayaa isla markiiba gaariga laga soo dejiyey falastiin dhaawac saas u fududaa gaaray dhulkaa la soo dhigay dhulka markii la soo dhigay isla markiiba meydow ahaaba kadib sidii aa lagu soo qaaday baabuuraa lagula soo cararay allah naxariista cali sidaas ayuu ku dhintay baabuur badana way socotay oo xasan xanifina markaasi waa nala socday siciid tahliil axmed agaasimihii hoon afriig waxa uu ka mid ahaa wariyaal aan marnaba ka bixin dalka oo aakhirkii ku bacay gacanta kooxda al-shabaab waxay siciid ku marti qaadeen kooxda al-shabaab shir isku beddelay shirqool isaga iyo agaasimayaasha warbaahinta maxalliga ah xasan xanafi waxa uu ahaa shakhsigii warbaahinta ku marti qaaday shirkaasi shirqoolka waxaana uu sharaxayaa wixii ka ogaa dilkaas siciid dilkiisa sina wax ugu ogaa sina wax uguma ogaa sina waa la igu mishimay saddexdaas bay ahayd raggii ila socdaan oo gaariyaan wata kaarib ah iyo lagu wiilo staff ah waxaan ugu soo tagay Shabeelle oo ahayd xaruntii aan ku balami wariyay agaasimayaasha idaacadaha ama madaxda idaacadaha inaan ka soo wadana ay ahayd aanan ka soo waday soo bistoolatayda aan la baxay kolkii aan la baxay aan soo jeestay laba xabo kala intayna dhicinna siciid oo sii dhacayaan arkay laba xabana way dhacday saan haddaan u soo fiiriyna unfortunately waxaan arkay rag aan aqaano hebel aan dhihi karo oo shabaab sidaas ayayna u dhacday kadib markuu sheekada iga sheekeeyay xasan xanafi ayaan weydiisay nisa inay ii ogolaadaan xasan xanafi inuu geeyo bartii ay ku dileen allah u naxariistay marxuum siciid tahliil waxayna nisa iga aqbashay codsigayga iyadoo loo xilsaaray amniga aniga iyo eedaysanaha ururka aar ee nisa oo noo galbiyey suuqa bakaaraha kadibna waxuu xasanna dulgeeyay bartii ay marayeen markii la dilay siciid cabdicasiis halkan siciid tahliil axmed agaasimihii warbaahinta hoon afriig ayaa lagu dilay goladaas ayaan ka soo wada leexanay siciid waa hor soconnay anugu halkaas ayaan marayay jingadan dhammaadkeeda siciidna halkan ayuu marayay raggii agaasimayaasha idaacaduna way ka dambeeyeen siciid halkan ayaa la dhigay xusuustaydii halkan ayaa la dhigay waxaan kula hortoon anugu halkaasaan sii marayay aniguna waa soo laabtay siciid meydkiis halkan ayuu yaalay wixii warbaahinta ka socday ee agaasimayaasha warbaahinta ahna luuqan ayay ku carareen sidaas ayayna idaacadda Shabeelle oo dhismeeda bakaara xarunta bakaara ay ku taallay ay u galeen marka halkan xusuus gooni ay leedahay 9kii bishii September 2009 ayay ahayd way marka xagee socota marka waxaan u soconay guriga arkaysid halka guriga ku yaalo aad hadda lagu soo jeedo daaqadiisa ayuu ahaa goobta lagu talagalay in munaasabada xiriirjinta ay ka dhacdo anoo shaqada ku wareejinayay ninkan hadda la leeyahay Yunus Abdulfataax la oran jiray hadda islaamka kamid ah oo faafinta kamid ah marka halka ayaan u soconay guriga xafladdu ay ka dhacayso guriga sayoo ahaa laakiin inta aan gaarin daqiiqadaha noo dhinaa oo dareemi kartaa halkan ayaa la dhigay siciid anuguna halkan ayaan la gadoomay oo luuq ahayd marka sidaas ayaan uga tagay siciid meydkiisa halkan soo saddex xabadood ayaa lagu dhuftay siciid xabadii koowaad waxay ugu dhacday madaxa laba kalena waa lagu dira kuwa dhagartaan galaaye intuu ciidan kala dhigay miinada dhex dhigayo waqtigii dhammaayay waqtigiinni adhadalatay baanahay daayihii dalkaanay idirkaan ku arkana marna dhaafi maaye dhabarkaani jabinaya siciid tahliil axmed wuxuu qabay shakiga ah inay jiri karto khatar waxaana ka mid ahaa dadkii uu la xiriiray siciid wariye cabdulaahi kulmiye cadow oo ka duubay codkan oo laga helay telefoonka marxuum siciid tahliil markii la dilay kadib dacwadan maxay tahay waxaan ku leeyahay waalan rabaa adiga waa tegina nasir diyaar gurigaan joogaa inta ayaana rabo shabaab waa tegina shabaab maanta waxaan leeyahay balaadihi iyo rajul waaweyn cabdulaahi kulmiye waa saacna marka diyaar garooyaa maxamed abubakar waaya ay soo baxshaan oo soo wacaya
cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo markaasi ahaa tifaftirihii shabeelle ayaa sheegay in xaruntooda bannaankeeda lagu ballamiyey agaasimayaasha kadibna halkaas la yska raacay wuxuuna cadaala aaminsan yahay in muhiimadda loo wacay ay ahayd oo keliya in la dilo siciid tahliil axmed waxay ugu xusuus badneed maalintii siciid tahliil la dilay allah u naxariista oo xasan isugu wacay dadkii idaacadaha madaxda ka ahaa oo adiga aad ku jirtay سعيد وكجري أنا كان كجري هراب وكجري ركب بدن إذاعتها مدحك أي كجرين مالين ظهر أي أهيد ماشي إذاعة شبل أي دقني ذا لقبل لمي دتك يوردن حسن يعني يونس اللي راه ذا جوجي مركي ورياش اللي سكيمد سعيد صودا هاي سعيد حقال السوقي مركي سعيد يبدو حاليا إنك حياة وضدي أي لقاضي ماشي دقني الحوالات قارن مركز مرة يعني واحد نجاه الريان ayaa telefoon uu ku hadlay ayuu soo noqday xasan iyo Yunus way soo noqdeen jid yaro xawaalada dahabshiil dhabarkeeda marnay wax yare naga horeeyeen xasan iyo Yunus waxa ku xigay ayaga Catoosh iyo Cabdullaahi Kulmiye iyo ragaan ka xusuusto Siciid Tahliil iyo Cali Madooba ku xigay aniga iyo Muqtaar Heraaba u dambeeyay Ilaahay u naxariistay iyo Xasan Cali Geesi markaan jid yar isgoyso ahaa ay dhaafeen iyaga Siciidna uu ka sii baxay annagana aan wali wadadii gelin ayaan xabad maqarnay xabadii gadaalkeena ka soo dhacaysay inta aan fiirinba waxaan aragnay Siciid oo dhulka yaala waa la kala cararay meesha anaga jid luuq yaran ku cararnay wax yar markaan ordaan meeshii soo fiiriyay waxaan arkay laba nin oo bastoolada haysto oo muxuu Siciid sii tooganaya iyo Xasan oo soo jeedo meel xaq oo kale Yunus ma soo noqonin bahor oo sii socday xasan xanafi waxa uu markii la dilay Siciid kadib waxay wariyaal dhowr ah waxa kamid ah dadkii uu wacay Allah u naxariistay agaasimihii Shabeelle Muqtaar Maxamed Hiraabe oo isaga la fahantiisu ay al-shabaab dileen waa kan Hiraabe oo sharaxaya wixii dhexmaray isaga iyo Xanafi xasan xanafi ay tawaan الله نحرسه راسنا هذه لا علاقة كمان نحرسه إلهي تعرف كمان وأنا نسأل الله نحرسنا مبعنا إلهي وأنا نحرسنا لكن نسي كل جميع الناس وضع أي وقت شوية كورنتي aan la dilin Siciid Tahliil waxay al-shabaab u diideen inay war siiyaan idaacadda Hoon Afrika wariye Cabdullaahi Kulmiye oo markaasi ka qaban jiray Hoon Afrika barnaamijka waraysyada ayaa la xiriiray Xasan Xanafi si uu uga qanciyo waxay tabanayaan kadibna waxa uu Xasan Xanafi ku xiray nin la yiraahdo Yunus oo ay dhaxmartay isaga iyo Cabdullaahi Kulmiye sheekadan waan waxna walaalow habeen dhawidna waan kula hadlay adigana shabaab iyo dhinaca saxaafadda xiriiriyay maxaa ay ku dhacday arintaas kaasir waxay ku dhacday idinka dawladda ku meel gaarka ayaa idin amaantay oo xafiiska madaxweynaha tagteen oo saas baa la idin soo dhaweeyay maanta waxaan arkaysaa macnaha inta la yiri iyo laaga midka ku dhigtay waxaana markii percentage la fiiriyay garabka weyn nimanka walaaleyna ka qaatay hadii marka maalin oo shir jira idin madaxweynaha ka dhacay مثلا في هون في لغا سو دوي جوابتي إيه نقطة إيه أنا نقصي حسب واحد معناه كلنا نقول حوار ما إيش النقطة وحان درين سنهاي مو تقول علينا هون أفريقيا وأنا جمارمين وحين نوجا مارمين وحين تهاي إنه من كله أنا وأنا مستقيم وهاي سنة حبض عن كل ذي إنه نقل سفتين marka garab ka haysa adigu kuma baahni waa wax wanafay anagu aan maanta joogto ahaan dareensanahay saas waay markay saas tahay taladan waxay ku go'an tahay iyaga wararka qaadanaysan iyaga la xaajooda iyaga la safta idinkii jirtaan laakiin anaga keena waa ka ishay bas umadaas koo ilaahay aan wararka ka tafsanayna Muqtaar Maxamed Hiraabe agaasimihii idaacadda Shabeelle waxa uu ka mid ahaa dad uu soo amray Axmed Godone in la dilo kuwaas oo ka tirsanaa warbaahinta waxaana lagu dilay marxuum Hiraabe gudaha suuqa Bakaaraha isagoo uu la socdo wariye Axmed Taajir oo isna lagu dhaawacay weerarkaas Godone soo amray asaga iyo rag wariyaal ah waxa ka mid ahaa Muqtaar Maxamed Hiraabe agaasimihii Shabeelle ahaa nin la yiraahdo Catoosh agaasimaha Simba ahaa ayaan Xuseen Cabdi oo BBC wakiil wareed u ahaa rag noocaasa kamid ahaa shan ay ahaayeen banaadir Axmedna banaadir agaasimeeda ayaa kamid ahaa in la soo amro markaas waxa socday ololihii president Sheekh Shariif Sheekh Axmed lagu soo dooranayay soo ololahaas ayaa socday ololihii socday ayaa sabab u ahaa in la dilo dadkaas maadaama loo arkay in ay u ololeynayaan
ololaha madaxweynaha oo Axmed Walad Cabdalla wakiilkii xogayaha guud qaramada midowday u qaabilsan Soomaaliya iyo Shariif oo markaas ururkii dibxiraynta Soomaaliya asmara fadhigeedu ahaa ka soo burqaday Djibouti ololaheeda uu ka socdo soo xaqiiqiyan in shantaas la amro waa ogaa aniga axmed taajir oo hadda qaxooti ku ah Uganda ayaa ka sheekeynaya wixii maalintaasi dhacay tobanka labaad kadib dib aan soo eegay marka waxaan arkay agaasimaha idaacadda Allah naxariis Mukhtaar Maxamed Raabo dhulka yaala marka bal waxaan sii hubiyey waan dareemay xabada ku dhacday bal xaaladiisa sii ag baan isla intaadana hore usii gudbin nin dhalinyaro oo dhuuban oo adigu aan ku qiyaasay da'aad 17 jir ilaa 16 oo nin dhuuban oo cad ahaa laakiin ana wajigiisa kale ma garan karayo ayaa xabadii labaad wuxuu kaga dhuftay labada indhood dhexdeeda sujuudda meesha la yiraahdo si saddexaadna anigu igu soo riday oo runtii tinteeda dhex martay qoraan usii cararay marka anigu xabado kalena way igu rideen orodkiina waxaan ku kala shirkadda Telecom Soomaaliya maxamed cabdullaahi xaaji oo tifaftira ku-xigeenkii Shabeelle wakhtigaasi uu agaasimaha ka Mukhtaar Maxamed Hiraabe ahaa ayaa aaminsan in Xasan Xanafi uu ka dambeeyey dilka agaasima Hiraabe Xasan Xanafi dhowr maalin ka hor agaasimaha Allah naxariista Mukhtaar Hiraabe ayuu wiilal la socday baray oo u ekaa dadka wax dila maalintii la dilay Mukhtaar Maxamed Hiraabe Xasan Xanafi wuxuu ahaa qofka ugu horeeyay oo xiriir ragga qaarkeena la soo sameeyay oo xataa ragga qaar isku dayay markii Hiraabe la dilin oo ayagana kharij kooxda ugus ee Al-Shabaab oo hadda gobolkeedu sii dhacayo waxa ay sii laba jibaareen tacadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka ah dhawaan waxa ay dad shacab ah oo ku shaaxeynaya xeebta Lido ku xasuuqeen maqaayad halka ku taala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maqaayadaasi booqday maalin kadib markii ay mashaqadaasi dhacday ayaa halka ka sheegay in shabaab waqtigoodii dhamaaday nimankan waa xaqin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya waa dhulkii xaqinka iyo dhulkana xaqinka dhamaaday way dhamaanayaan sidaas awoodoodu maalin walba u sii daciifaysaa maalin walba hoos u sii aadaysaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda ayaana ka soo hari doona hadii la yiraahdo Sheekh Nuur Maxamed Abkey tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxay Al-Shabaab ka afduubteen isgoyska ifka xarane xilli galab ah isagoo ku sii jeeda guriga ka deganaa xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Yaaqshiid waxaana Sheekh Nuur Abkey oo ahaa nin aan marnaba cabsi ka qabin in la dilo uu si joogta u aadi jiray gurigiisa oo markaasi halka uu ku yaalay ay ka talinayeen kooxda ugus ee Al-Shabaab waxaana Sheekh Nuur uu rumaysnaa qadarta Alle isagoo ku adkaystay inuusan marnaba ka baaqsanayn gurigiisa marar dhowr ah oo lagula taliyay inuu iska seexdo wasaaradda warfaafinta
ismaaciil salaad guuleed istiila oo markaasi ka hor aan laga warhayn inuu ka mid yahay kooxda al-shabaab ayaa ka mid ahaa wariyaal imaan jiray wasaaradda warfaafinta soomaaliya si ay u helaan wararka dowladda soomaaliya waxaana uu ismaaciil istiila si joogtaa u gudbin jiray xogta ah in sheekh nuur abkey uu u shaqeeyo wasaaradda warfaafinta maadaama uusan ahayn sheekh nuur wariye codkiisa la maqlo oo adkayd in la ogaado doorka uu ka ciyaarayay warbaahinta qaranka xasan xanafi oo ay si fiican isku yaqaaneen sheekh nuur abkey ayaa isku dubariday qaabka loo qaarajin lahaa abkey wuxuuna fadhiistay wadda mar inuu ahayd abkey oo aan qabin tuhun in la beegsanayo si caadiyana maalin kasta hal wadda uu isticmaali jiray waxa uu arkay abkey xasan xanafi iyo nin kale oo wada fadhiya meel kadibna waxa uu kula leexday salaan isagoo aan cabsi ka qabin in xanafi dilayo kadibna wuu iska gudbay sheekh nuur abkey xasan xanafina waxa uu ka daba diray abkey ninkii la fadhiyey sheekh nuur hadda soo noqon maayo sheekh nuur dilkiisana qaybaan ka lahaa gacanteyda aan ku dilin laakiin sababkeedaan lahaa sheekh nuur maxamed abkey gacanteeda anaa ku qabtay anaa gaariga kala tegey anaa gacanteeda ku qabtay xageed ku qabtay ifka xalan isgoyska ifka xalan ku qabtay muxuu saarnaa marka gaari caasi oo saarnaay suuq xoolo u soo waday sheekh nuur waxaan ku dilay waxay ahayd in uu ka shaqeynayay raadiyo muqdisho oo ahayd markaas idaacadda u shaqeysa dowladda federaalka Soomaaliya hadda telefishin ay yimid howlo badan ay jirta laakiin raadiyo muqdisho markaas ahayd raadiyo muqdisho inuu translator ama turjumaan u ahaa ayaan helay xogteeda nin la Ismaaciil Salaad Guuleed Stella oo hadda Ismaaciil yara la baxay ayaan istiyay inuu u shaqeeyo halkan sidaas darteed anoo masaajidka Abu Hurayra bakaara fadhiyo shaah cabayo ayuu sheekh nuur soo maray uu islaamay waa salaamay uu hormaray marna waa farxay marna waa nahay mar waa farxay ninka aan arkay oo aan ka aaminsanaa murtad inuu yahay ku farxay marna waa nahay ninka la dili doono in uu yahay nin aan aqaano na waa ka nahay xaqiiqdii markaan kaaga waran wiil aan ila socday oo meesha ila fadhiyaan waxa ay raac ninkaas lugta meesha u dhiga la dhig suuq xoolo dagnaa suuq xoolna shabaab maamulay deeto sheekh nuur sidaan ku daba kacnay yarkii waxa ay baawrac samoodatid haa uu ii wataa la raacan ku ila socdo baawrka sheekh nuur cabaar uu ii jiray anna waa ka dambeeyay sheekh nuur ma qabin dhagar ah dilkiisa in aniga wax ka abaabuli doono ama in aniga soo daba socdo ama in aniga ninka soo daba dir ma aaminsanin wiilka aan soo daba dirane ma yaqaano soo ninkan waa iska daba socday baar wuxuu jaam ay tageen oo aad loo buuxo baarta suuq xoolaha baarta afgooy baarta saas la isugu buuxo la isku dilayo wala joogo wiilka anuguna meesha saa masaajidka xareed isbitaalka dhinaca uga dhiganay isbitaal xareed in la dhaano mana foomku fadhiisi jiray ayaa waxaan ku arkay yaxay buurkaasoo waxaan u sheegay sheekh nuur abkey asuur saas miyaa warwaada barkacayna gaari zuuka ah oo aan watay ayaa waxaan watay gaari zuuka ah ayaan ka soo daba baxay gaari zuukaan ka daba qaadanay waa la joognay sheekh nuur caasi raaceen caasi wiilka ila socdana uu la raacay soo wiilkii asla waxayna inta uu leeyahay amniga markaas haysta la wacay asayna wuxuu yiri waa idin imaanaa isbartiiba ku haaya isbartiibaan ku haynay deeto maxaan ku raadiyay wiilkii aan waxay ifka xal ugu dagaa irbaawrka waayo deeto baawr BL ah waa dareemi kartaa intii church la yiri waxa uu sameeyo baawrku darawalku waxa weeye waxa ugu horeeya inuu bareega qabto uu qabtay uu ku joojiyay anaa soo dagay iyo nin kale la yiraahdo daahir macallin daahir ciise la yiraahdo oo saddex loo yaqaan Abd Kaafi ayaa jidka ka sii qaadanay oo hotel Peace ayaan ka sii qaadnay oo maxaan ku raadili doonaa asaga soo labadeena ani iyo saddexa wada dagnay deeto maxaan ku raadaa wayna wada sheekh nuur ana aqaanin ninka kale muun aqoon ana la soo dagay baawrka ana saartay dadku way yaabeen baawr miyaaradihiisu xiran yihiin oo benzal ah waxaan ku raadaa baawrkii ku horgooyay niman indhe xiran ay ka soo dageen cimaamado wato iyo bistoolado dadku xooga la yaabay ku noqotay hal nima hadana kala baxay wili xataa wuxuu saarnaa caasiga dhinac uu ka furnaa dhinaca kale ayuu saarnaa dhinaca kale furay ana la soo dagay baawrka meeqo 5 kun ku saarnaa 5 kun ana dhiibay waa iswada raacnay soo dhinaca waxaan wada ifka oo ifka xaran dhinaceeda oo waxaan wada gubta xigto baawrka markuu dhaafo baawrkii marqay waa socodsiinay markaan mareen isbuunyada oranay dalsan meesha oomada dalsan meeshaan margeeno isma ifka xaran marka laga dhamaado ah soo kala wareegnay baawrkana ku soo qaadanay isbartiibaan maqrib ku tukanay anaa la hadlayay anaa wareysanayay iima fahamsan in anaga wareysanay shaarkiisa anaa ugu xirnay sheekh nuur daawud aan noo yimid oo amniga ahaa markaas daawudkii wuxuu yiri guriga uu degan yahay guriga aan deganahay niyahow
waxaan ku raadiyay ishaag waa isku dhagan yihiin mana ka malaysanay ninka inuu meesha ku shaqeynayo daawudka warka ka xaqiijiyay intee lagu dilaa timid Sheekh Nuur intee lagu dilaa si shabaab isaga fogay eeda waxa soo baxday in lagu dilo meel xisbul islaam oo xasdaan aweyso markaas hogaamiye u ahay difaacooda in lagu dilo oo gid jecel ahayd markii la dilay Sheekh Nuur Abkay kadib waxay Xasan Xanafi iyo Ismaaciil Stila siyaabo kala gooni u soo waceen wariye Bashiir Khaliif Gaani oo u sheegteen inay iyagu dileen Sheekh Nuur Abkay bal ila dhagaysta codadkii uu xilligaasi duubay wariye Gaani oo aan ku hormarayo codka Stila kadibna Xasan Xanafi adiga iyo wax la mid oo kale saas oo kale inaan u bireen raba saas oo kale inaan midida kaga mariyaa raba murtadi bax adiga naagaha murtadiinta oo meesha inuu joogay kuwa kale wixii murtadiin oo dhan waa la dilayaa adiga laftiga waa lagu dilaa murtadi oo qaayinka madaxaan laga jaray ilaahay ku dhaartay haddaan ku qabto jiro madaxa ka jarin islaamnimada aan sheeganay dhab ma haddaan ku qabto dad toobad oo intuu qoray idaacaddeena markii uga sheekeeyay Xasan Xanafi sida ay u dileen Sheekh Nuur Abkay ayaan isku raacnay goobtii ay kala degeen baabuurka halkan waa isgoyska ifka xalane oo ku dhow garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho waxa uu Xasan oo wata gaari yar kala degay bartan Sheekh Nuur Abkay gaari caasi ah kadibna waxa uu la tagay garoonka Stadium Muqdisho oo in xabaara uu ku hayay ugu dambeyntiina waxay geeyeen meel u dhow hoteelka Daame ee degmada Wardhiigley waa kan Xasan oo dul geeyay goobtii ay ku dileen Sheekh Nuur Abkay sharaxayana sida ay wax u dhaceen halkaan ay ahayd geedkaana ku yaala barta halkaasaan gaariga soo dhigay halkaana la fadhiisay Sheekh Nuur halkaasaan maxaan ku raadiyay isha ugu toogtay meedkiisa sidaan ayuu u dhacay halkaan ayaana ka tagnay qiyaastii imisa xabaa lagu dhiftay 3 xabo 3 xabiyaa kala dhiftay waxa ku kala dhiftan leeyahay xibuur in leeyahay macal daar ciise oo saddex ay isticmaaleen makaaro ay xagee uga dhiftay madaxa hay 3 xabo madaxii ugu dhacday hatta faniinka waxay ii gaariga ana waday halka laamiga laga soo leexanayaan joogay waxay igu yiraahdeen hatta maskaxda faniinkeeda ayuu soo gaartay ay igu yimaadeen gaariga waana gaariga bartaasan ku wada Xasan ma jecla sidii uu xanuunka u dareensiiyay Sheekh Nuur Abkay in loo dareensiiyo taas bedelkeedana waxa uu caruurtii iyo xaaskii Sheekh Nuur Abkay weydiisanayaa inay cafiyaan isagoo ku doodaya inuu diya ka bixin doono dilkaasi haddii dowladda Soomaaliya ay cafiso cayladiisii inay daawanayaan waxaan anigu biliif gareysanahay oo aan aaminsanahay ayba tahayba soo haddii ay jirto عفين جودو لا يفيدين كلا إن لا عفيه هدي إن جرنا وحق شيء وجرى إن شيخ نور ويران حتى أن عدي سلطة تعامله وراح حتى دي أن كديبه هدي نعفك كل شيء أنت سواها maxamed ibraahim raage oo ka tirsanaa SNTV waxaa lagu dilay degmada Dharkiinley isagoo ay cunugtiisu dhabta u saaran tahay fadhiyana albaabka gurigiisa waxaana uu ka mid ahaa maxamed ibraahim wariyaal la saarnaa gaariga Xasan Xanafi markii uu diyaarinayay shirqoolka Cali Iimaan laakiin aan dareemin hawsha uu wado maadaama uu ku hadlayay eraya afgarasho waxaan ku irwaali la saaray rag guriyaal la saarnaa oo ka mid ah maxamed ibraahim raagi hadda dhintay dilka maxamed ibraahim markii uu dhacay daqiiqada kadib waxa uu Xasan Xanafi soo wacay Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu sheegtay inay iyagu dileen maxamed ibraahim raage raadalo waran soo fiican halkay ka waran halkaygu waa maxaa ka soo gala maanta ruuxii iga soo gali jira iga soo galay sultaanka kala shaqaysanayno dadka la shaqaysta sultaan mahay hadde shaqada idinka idinku dambayso meel xun idin la tagtay maxaa wadaa maxamed ibraahim raage nin rag oo dalkiisa dadkiisa u jihaaday oo u dhintay waayo isagoo khawaarijta idinkoo kaleeta la dagaalamaye waan gartay adigu haddana waxaad ii soo wacday inaad ku faraxsantahay soo maha wax kale waxaan kaloo qabtaa beenaa waxaas ku soo waclay shaqadeeda dhanba tahay sataan tiimka kale ka soo jeedo wala doqonnima idin haysa laakiin waxaad ogaataa qofka dishaan qofka walaalkiisa bedeli doona iyo xaaskiisa iyo maaragtay raaga dad haysatiin inuu dhib idinka haran yahay dhib ka weyna idinka kordhi doona isaguna isoo ku dhinto isagoo muslim oo maqrib maaragtay salaad maqrib uu weesha qaato dhintay
idinkaana xisaabteedana idinkaa ajaabka dasha doontiin waxna idinma kordhin doonto marka weligiinba ku faana inaa ilaahay ugu dhawaanaya xisaabtiisa aakhira noola haysaa haddana ilaahay umaada dhawaana waa ka fogaatay mujrim ilaahay ka fogaado dhiigga dadka xabaadnataa meelna kuma gaari doonto waa arkaysaa kowdhe aniga ku sheegay dhowr mar horena wadadaas wada kamidisa inaad ku dambeyn doontid haddana waa kugu celinaa marlabaad jaanis kalaan kusiinaa kowdhe ilaahay ayaa usoo bukee waa ku sheegay waxaad ogaataa wallahi waxaan niyad adayg iyo geesinimada inaanan ka qaadaynin qof kasta oo meeshaan ka baxana qof walaalkiis iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa bedeli doona ilaa qofka idinkugu dambeeyo oo idinka dhinto oo idinka iyo kuwa idin lamidka ah anaga waa shiidnaa mujrimiina tihiin mana shahiidiin anaga waa shiidnaa ولا تقولوا لم يكن في سماء ما قد الحياة عند ربي ولكن لا يشعرون قرآنك إلهي أو قفل واحد قرآن ما تغنين بارا لقوقيا الذين أخرياه قرآنك إلهي أو قفل إنما قيبا يريروا لسوق قوقيا فسراب قلتان لذكوه جسما قرآن ما تقرآن يدين ما تغنين أدنواك وقالنا لكن وحاده قاعد هذا واحد بدنا قال اللهم قرنا لكن قوة صادرا أو الشيخ أدلي وقو جيد محمد إبراهيم راقي يقول كوري يقول قدام بيت دونا حوق يأود راديو مقدسه يأذن في كردد دونا تعالى والله ما علينا نوصل بيدونين ما علينا كستنا هذا الكسالة يكون عميد كذا قاعد يكون سيدي دونا تاسكو تشرب يوم من الأيام وحاسكو ورسم دونا waxa aad dadda inaad sameynayso santa hadday khayr ku tahay aniga oo shalay ugu aaminsanahay يوم من الأيام أذكر صدقنا صاحب ما أنكر هذا الشيء ومر كله عن قوة لنا إلهي أتوبت كنته حتى أتوبت كنته والله وعن أهد وحبا يعني صاحبك هاجة تفريقة مسلم كاهد إنا وضوء بكل ساعد ما قرأت لا أنا نكن عنك لا قبته صوبة اللي قول اليوم مرد وهذه لكن إلهي هدوانون كوغر وسواء نزل وهذا النتيجة تذكر مسلم كاهد كف عنا السوء horta col iyo cadaawo cusub oo idinku kordhin doonaa adigana meel xun oo aad ka shalayso kuula dabayn doonaa adduun iyo aakhiraba taas ogow marka anigu hadda adiga cilmiga wax igu sheegtaba kuguma aqaana aniga adiga waad naqaanaa rag saaxiib ahayna isla soo shaqayn jiray laakiin waa qalloocatay meel aad u leexatay iimaankii diintiya kaa xumaatay qiyaamaha noo balana ninkii qalloocada waaya qiyaamadaasoo noo balala markii joogayo inkastoo codkan laga hayo xasan xanafi haddana markan wuu iska bari yeelay inuu wax ka ogaa dilka maxamed ibraahim raage wuxuuse sheegtay inuu ku qanacsanaa siday wax u dhaceen ibraahim raage aad u weynaa ugu qanacsanaa weli xataa anigu waxaan ku ogaa inuu joogay meel layaa Kampala oo jaamacad u aadayaan ogaa wariye nasteex daahir faarax waxa uu ahaa wakiil wareedkii BBC iyo wakaalada wararka AB waxaa lagu dilay magaalada Kismaayo waxa uu kamid ahaa xasan xanafi xubniye ka tirsanaa al-shabaab ee wax ka abaabulay dilka nasteex daahir faarax waxaana uu sharaxayaa sababtii ay u dileen nasteex daahir faarax wakiil wareed BBC Kismaayo ayuu ahaa al-shabaabna goorta la dilayay waxaan u maleynayaa inaynan galin gudaha magaalada Kismaayo oo uu maamulayay Colonel Barra Aadan Shira Barhiira la ciidamo taabacsan ay joogeen magaalada Kismaayo ay toos u galin al-shabaab soo nasteex sababka lagu dilo waxay al-shabaab waxay abaabulayeen qorshe ay ku gali lahaayeen magaalada Kismaayo magaalo xeebeedda ah si dekadooda dhaqaalaha ka soo galay ay gacanta ugu soo dhacdo soo nasteexna maadaama wakiil wareed idaacad international uu yahay waxa uu tabinayo waxa ay tahay dagaalka inta uu socdo si dagaalku macluumaadda ay ugu yaraato ama lookalada bas suuriyaasha ka shaqeeya ay u tabin karaan ayaa loo dilin nasteex waxa dilina waa al-shabaab laakiin fatwada waxaa dhiibay nin la yiraahdo Ibraahim Jaamac Miicaad Ibraahim Afqaan oo Abu Bakr Saylici isku magacaabi jiray xasan xanafi waxa uu sidoo kale wax ka ogaa dilkii agaasimihii Shabeelle Xasan Fantastic oo lagu dilay degmada Wadajir waxaana uu xasan sheeganayaa inuu la socdo hawshaasi ka hor intii aysan dhicin iyo kadib markii ay dhacday intaba حسن عثمان فانتاستيك أجاسمه راديو شبelle إنه هاي رجينا واحد دلي وحيا هاي الشباب مركز كهرنا جروجيس إيريس أيا لسوس هني وحنا اللي هو رجليه إن الدلي دونه حسن فانتاستيك ساسو أي تهينا
xasan fantastic waa la dilay wariyaal badan ayaa lagu dilay Soomaaliya waxayna ka midaysan yihiin badankood in qaabab isku eg loo dilay waana habka dhagarta ay wax u dilaan kooxda Al-Shabaab xasan xanafina waxa uu mas'uul uga ahaa kooxdaasi hawshaasi dilalka wariyaasha inkastoo markan uu dilalka wariyaasha badankood inkirayo iskuna muujinayo in qaybta uu ku lahaa ay ahayd oo kaliya inuu soo xaqiijiyo geeridooda waa kan isagoo markan dul istaagaya dilalka wariyaal ay ka mid yihiin Yuusuf Kaynaan Axmed Cadow Canshuur Maxamed Maxamuud Timacade Cabdi Xareed Aadan Cusmaan Xasan Yuusuf Absuga Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Faray iyo wariyaal kale Yuusuf Axmed Abubakar Yuusuf Kaynaan goob uu dhiganayay baabuurka in xogteeda la diyaariyay lala tacaamulay dadkii ka ag dhawaa goobta sidaasna ugu suura gashay in ragga ministayaasha Al-Shabaab ay ugu xiraan baabuurka Yuusuf Kaynaan hoosta goobta uu fadhiyo inuu darawal ahaa la ii sheegay ay ugu xiraan dabadeetana way fushay Yuusuf markuu gurigiisa ka soo dhaqaaqay gaarigii uu soo watayna eerida xamroweyn inay ahayd ayaa la ii sheegay goobta lagu qarxiyay macalinkii uu ahay Allah raxma xasan Yuusuf Absuge idaacada maanta idaacad la yiraahdo iga dambeeyay inuu la shaqeynayo waa la ii sheegay in dadkii dilayna TV aan ka daawaday ruux axadkii dilay kamid ah xuduudiisa kamid ah oo booliis dhiigley isla booliisku dhiigley inaan ku wareysatay ila ahayd aad soo wareysatay xasan ninkii dilay hadayba ahayd xaqiiqo maanta caawaqab xumadiisa uu haya laakiin waxaan horena kugu shaadana kugu celinay ayu journalist ama أي ورية كوسوغان مقدشو الشباب حقود waa ka xukumaya diloon oo xukumaya maalkiisa iyo naftiisana waa u banaanta Yuusuf Cali Ismaan Yuusuf Faray macalinkayga waa ilmo kuwiisana inaan macallin oo ahaa u maleynaya ilmo kuwiisana waa isla qaro isla shaqeeyno xasan Yuusuf Cali Ismaan xasan Arab hadda idaacada risaale inuu soo ama irbaanta qarankana waa ku ogaa mar waa suuragal inuu joogo waxaasoo dhan waxaan ku ogaa lama arko laakiin waxaan aaminsanahay in Al-Shabaab tiri Axmed Cadow Canshuur waxaan xasuusanayaa markii aan maqlo barnaamijka Shabeelle ka baxa qubanaha Shabeelle oo aad u wadi jiray waxaan rajaynayaa in lagu dilay degmada Madiina sanadii 2012 xaqiiqdii ma huba ilaa 12 meelaha mid un bay ahayd أحمد عدو عنشور وحقيقنا يا إني الشباب دلين وحلو دلنا إني أهد برامج كاس ووضي إذا عدوا كشقيني أو اعتراف سيئين إذا عد مفسدين إني تهاي أنا وحي صوعي أحمد عدو عنشور كهر مركي اللي دلي كدي بقى نراهده لين اللي يراهدو مع داهر عيسى وصدح لو يقارنو ننكاس أيان يويري ننكاس أيان دلي هوشي سنة واكاسا حق ككين dabadeeto waxaan u maleeyaa rag guriyaal ah oo adiga ba aad ka mid ahayd inaan soo wacay in ay xaqiijiyeen geerida Axmed Cadow Canshuur Timacade unfortunately Shabeelle ayuu ka shaqeynayay ka hor hadda markii la dilay wuxuu shaqeynayay Universal TV Shabeelle way ka soo guurtay dhismihii Bakaaro xilli habeen ah oo ay soo raratay alaabkeedii iyadoo xataa qaar ka mid ah shaqaalaheedii uga soo tagtay goobta ay ku sugnaayeen kadib markii albaabada ku xireen maalmaha ka mid ah isla daahir ciise soo wacay wuxuu yiri ninkii afwan waxa soo wacay Yunis ninkii Timacada ahaa waa la kala tuuray xaq waxaan ku raadayay isha arinkaas soo xuraansu ugu yiri waxaan ku yiri ma idaacadii uu ku noqday wuxuu ugu yiri maya idaacadii kumuuna noqonin
idaacadda universal oo markaas ka hor al-shabaab ay iska mamnuuceen dhiigooda iyo maalkooda way banaystay calleer ayaa si toosa u yiri tv-gaas u shaqeynay ugu yiri dabeeto waxaan wacay gabadhii uu qabay timcade waxaan ku iray balwaran waxay tiri waa baxiyey cabdixaraad cusmaan aadan si ahaana isku xaafad baan ahayn saaxiibana waan ahayn shabeellana waa u shaqaynayay waana la dilay subax aroor jumca inay ahayd ayaan rajaynayaa ama subax khamiisaad midkood inay ahayd ayaan rajaynayaa soo ay dariiq cabdixaraad cusmaan aadan waxaan xaqiijinayaa in ay al-shabaab dileen sababka loo dilayna waxa uu ahaa inuu ka shaqeynayo idaacad ay iyagu aaminsan yihiin inay tahay idaacad gaalo oo ay qolo murtadiin leh cabdimaalig yuusuf oo ah mulkiilaha shabeelle ahna guddoomiyaha shabeelle iyagu waxaa ka dhadhacsan axad murtad inuu yahay حركات الشيطان وجهك صوحرتي حيادي لقى قادي إلى حي أرقيسيو حسدين كفوك بان حسودت كلايو حجرتو ذو داشتي allaha u naxariistay wariye xasan yuusuf absuge oo ka tirsanaa idaacadda maanta ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay meel u dhow isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho xilli uu ka soo baxay howl maalmeedkiisa waxayna dilka allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge maalin ka dambeysay qarax si wadar ah loogu dilay wariyaal iyo dad shacaba guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho waxaana goobtaasi dadkii lagu dilay ka mid ahaa allah u naxariistay madaxii wararka telefishinka qaranka SN TV liibaan cali nuur madaxii barnaamijyada SN TV allah u naxariistay cabdisitaar daahir sabriye iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda VOD ee maxalliga ahayd cabdiraxmaan yaasiin qaraxaasi iyo weerarkaasi shirqoolka lagu dilay xasan yuusuf absuge oo maalin kala dambeeyey waxaa intaba mas-uul ka ahaa oo sheegtay kooxda ugus ekis al-shabaab daqiiqado yar kadib markii la dilay allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge ayuu telefoonka gacanta kula soo xiriiray xasan xanafi oo kooxda ugus ka tirsan wariye cabdiraxmaan yuusuf al cadaala isagoo u sheeganaya dilka absuge iyo kuwii ka horreeyeyba markii allaha u naxariistay xasan absuge la dilay maalintii liibaan iyo ay dhinteen ay cabdisataar maalintii ku xigtay oo xasan absuge ay dileen ayuu soo wacay anoo barxadda wasaaradda fadhiyo markaas uu maqlay wax yar 5 daqiiqo 6 daqiiqo ka hor dhimashada xasan absuge markaas wuxuu ugu dhahay hada shalana waxaan idinku sameynay waa ogtihiin maantana waa kaasa sidaas hadalla ahoo jees ahoo maaragtay uu ku faraxsan yahay inuu dilkaas ka dambeeyo halo cadaala حسن سيطة وافعنا يورا وافعنا الحمد لله هاي جو عالي حتى يوسف أبسط ووضعي وكورة إلى طومان هاي اللمس هذا ما حاكو دعي أيوة يعني ميت كيس ماشي على كسر قاطع زي الدعوة اللي على كمين شاينا وكل اللي ذا عنا رياض ستار وكل عناي كل يوم كنا ماشي في مير كل يوم كل كتب بيت أنت مداوي لا توجد كين هذا والله ما لحنا هذا قدام بيت وأنا ما لنا ما تأهينا نكتب واجب وأنت مركا ديبان يا عدتان إن من ما ركتني جايدين وتلك ودود أنت هايين قفت على وقت يسوق أنت لكن وحرجينا ما لنا عدالة دور ما كنت كجواب ما لنا ما انتهينا هذا كجواب أنت هذه عدالة دينا أنت عدالة رجل ماشى كويدا وأسألكنا إن شاء الله لا تعاود ماشي في كل سلاسل كل تنمية بلدنا إن شاء الله هذا يوم جايين يدعمون وأسألكنا وهذا دم بس ملحن وأركض أنت كاس واحد يقول أنت وانا قانا لكن إذا كان قونا واحد يقول مثلا ملحن وقدم بين دو أمريكا
waa isla joognaa ninkii meel xun ku dambeeya waa la arki doonaa saaxib waa arkaynaa saaxib waa arkaynaa haddii meel fiican waxaan ku dhimanayna aanan aqoon idinka aa taqaaniin waxaa naga baabiin kartaan waa is arkaynaa insha allah saaxib okay waa arki doonaa meesha ku dambeeya dilalka wariyaashu waxay cabsiya baqdin ku abuurtay saxafiyiin badan oo awoodi waayey inay sii wadaan shaqooyinkay u hayaan bulshada waxayna u carareen dalalka dariska laha Soomaaliya qaar kamida wariyaashaasi oo qaxooti ku ah Uganda ayaa ka waramaya waxa ay ka soo carareen duruufihii aan Soomaaliya uga soo baxay qof kasta oo suxufi ah ama wax garad ama aqoon-yahan ah waa miduu ka dharagsan yahay dhibaatooyin iska muuqda jira dilalka wariyaasha lagu hayay kamid ahaa markii aan shaqo joojin sameynay aniga iyo rag kale oo hadda raadiyo Muqdisho jooga iyo kuwa kale oo ku sugan dalkan Uganda dilkii Hiraabe iyo afduubkii JK agaasimihi Universal iyo dhaawacii Axmed Taajir waxay ahayd dhacdo su'aal ku keentay shaqada saxaafadda dhexdhexaadka ah inay jiri karto in kale 23 bishii December 2008 ayaa ugu dambeysay magaalada Muqdisho أنا مركا وشغلني تلفزيون كعالمي يونيفرسال ظروفي وكلفي إن أنا ودن ككسو على وحي هيد كدب مركي عن مري وددا مكة المكرمة دقيقة كور وأن تجي حرونتي أن تلفزيون مكة سيكوتي اللي وتلك عم بشتر نعس الدنباء أي قرح كدعي وددا هالكاسو هوين wadada nadiifinayay oo wax ka yar $2 oo cunto ku bedelasho shaqo ku shaqeynayay meeno halkaas loogu dhigay ku qarxaday ilaa in ka badan 20 haween ayaa halka ku geeriyootay kontamayana way ku dhaawacmeen halkaas ayaan warbixin ka soo tabiyay kasokow wariyaasha la dilay waxaa jiray wariyaal kale oo la dhaawacay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wariye Maxamed Shariif wariye Muxidiin Xusni iyo wariye Xasan Matore waxa uu Xasan ka sheekeynayaa wuxuu ka ogaa weeraradii lagu dhaawacay wariyaashan Maxamed Shariif hadda wuxuu u shaqeeyaa raadiyo barkulan ayaan rajaynayaa raadiyo barkulan al-shabaab waxay aaminsan yihiin waxa ay tahay in ay leedahay ciidamada African Mission in Somalia ama AMISOM marka la soo gaabi loo yaqaano nin la yiraahdo Aadan Gaaldile ayaa soo wacay asaguna ugu yiri Maxamed Shariif iyo nin la yiraahdo nin Shabeelle asagana u shaqeynay oo hadda ugu soo warama magaalada Baydhabo magaciisa Agjoole hadda ma xasuusto oo la dhaawacay asaguna oo reer Baydhabo ahaa labadaasba waxay soo wacay Aadan Gaaldile محسن حسني يا معدين حسني labadaas ban ninka leeyahay Aadan Gaaldile ayaa soo wacay iyana sheegay Xasan Matore warbaahinta qaranka ayuu u shaqeeyaa ayaa rajaynaya wakiil wareed markaas uma shaqeynaynin laakiin hadda inuu u shaqeeyaan mar soo warar ana daawanayo TV-ga qaranka la soo deeyaan arkay soo deynaya waxa xaqiiqo ah in ay al-shabaab dileen sababka ay ku dileenna waxaan ku xaqiijinayaa in ay tahay in uu murtad yahay xabada ay ugu fureen oo bistoolad xabadu waxay rabeen dhinaca wadnaha inay kaga dhuftaan ilaahay iga badbaadiyay oo naaska korkiisa iga dhacday kadib dhulka ku dhacay markaas sidaas u fiiriyay laba cunug oo aad u tabar yar oo aday markaas labadoodaba madaxa iga xanuunay sida ay u egiyeen iyo waxa ay dabacsan yihiin ayaa markaas hal mar inaan mid kamid ah ku booda bistoolada la qabsaday adoo dhiigii gadaayo daqiiqad intaana fidhin gaariga xabadaha igu dhufan doona guriga meel banaankiisa ah yaalay yarkii macalinka wuxuu su'aalay warbalaago gaarigan ma gaarigii saaxiibaha yarka ahaydeen uu wadin jiray gaarigan fiiriyay waxa irinayo ma gaarigan waa duug kaasina waa cusub yahay gaarigii kolle gaari aniga iraadinayo ahaa markii aan wajiga u dhameystiray aqoonsaday inaan balaag ahay wuu dhaqaaqay qadar daqiiqada ah ka bacdi anoo sheekadii ku mashquulsanaa waxaan ka war helay bareeg la igu aqabtay iyo xabad igu socota haddaan fiirshay gaariga holac qori afkiisa holiciisaan dareemay iyo dhawaqii rasaasta iyo derbigii aan fadhiyay ugu soo dumaaya xabadka ma tagaanahay xaadis suxuufiyaanahay xadna kama baqaanahay xigma kuruuriyaanahay xoqayntii warkaanahay xabadka ma tagaanahay حاضر صحوفي أنا هاي حتى كما بقانا هاي حكمة غروري أنا هاي حكايتي
tacadiyada ay warbaahintu ku hayaan al-shabaab kuma eka oo keliya dilalka wariyaasha ee waxay sidoo kale xoog ku qaateen qaar ka mid a qalabka ay ku shaqaynayeen idaacadaha muqdisho sida IQK Soomaali Weyn Horn Africa Capital Voice BBC Warsan Baydhabo iyo idaacado kale oo ku yaala gobolada dalka waxaana xasan xanafi oo ka mid ahaa xubnihii al-shabaab ay u soo direen in idaacadahan ay bililqaystaan xaqiiqiyan anu waxaan u hayaa idaacadda ah Horn Africa warbaahinta Horn Africa Capital iyo Horn Africa isku wadatay iyo idaacadda Soomaali Weyn waxaa kaloo hubaa inay jirto idaacad ku taalay Sanca iyo Radio Banaadir isgoyska Sanca iyo Radio Banaadir inta ka dhaxayda oo laga qaatay alaab ay ka tagtay markaas idaacad ka guurtay meesha oo Maxamed Carab oo hadda Yurub inuu jiro la ii sheegay uu ka shaqeynayay idaacaddu agjood magaceeda si rasmi ah uma hayo idaacadaasna qalab ay ka tagtay oo u badnaa qalab xafiiseed in ay qaadatay lagu dayactiray Radio Andalus Ceelbuur ayaan hubaa xaruntii labaad oo markaas xaruntii saddexaad bay labaad ahayd saddexaad oo Ceelbuur laga dhigay lagu dayactiray laguna furay dhismihii ameerada FMT Soomaali Weyn laga qaatay BBC-na fatwo ayaa lagu qaatay si guud fatwo soo baxday oo badana uu soo bixiyay amarkiisa lagu qaatay ay xarumo badanayna BBC-du lahayd xataa xaruntii dambe ugu dambeysay waxaan ugu daba tagnay meesha leeyahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa ugu daba tagnay oo xataa raga loo xirxiray la ajligeed dabadeetana waan helnay markii ay dhacday intaasoo bililqa ah waxay idaacadaha qaarkood bilaabeen inay si dhuumaalaysi ah kaga soo guuraan goobaha ay al-shabaab ka talinayeen waxaana ka mid ahaa idaacadihii sida dhuumaalaysiga ku soo guuray idaacadda Shabeelle ee Muqdisho maalmaha ka mid ah ayaa waxay soo wacay ninkan maanta gacanta amniga ku jira Xanafi wuxuu yiri waxaan fadhiyaa goorow baar bulsho ay igu imaad baar bulshona waxay ahayd xaruntii Shabeelle degan tahay markaas maqaayad u dhow ay ahayd waan u tagay oo amarka laba diidi karin asagoo qol dhex fadhiya oo TV-ga Al Jazeera fiirsanaya oo aad u qabto inuu TV-ga shaashada madaxa la sii galayo markaan u imidna wuxuu ugu yiri haddii alla ku roon yahay maanta waxaan dhageystay warkiina idaacadda gabadha akhrinaysay gooro waad ogtahay in gabdhaha codkooda uu dambi yahay marka waxaan rabaa inaad joojisiin haddii alla ku roon yahay gabdhaha wararka akhriya marka uu sidaas leeyahay wuxuu fiirsanayaa gabar haddii alla ku roon TV aan rabin hadda inaan magaciisa sheego warka akhrinaysa oo microphone-ku meesha uu xiran yahay qaybta kore xabadkeedu uu muuqdo madaxeeda iyo jirkeeda kalena uu bannaan yahay oo warka akhrinaysa TV ayuu fiirsanayaa oo TV-yada afka carabiga ku hadla kamida aniga hal maraan carooday nin fiirsanaya gabar qaawan oo war akhrinaysa mid uu codkeeda maqlana igu haysta waxaan iri gabadha carbeeda cawradeeda banaysa waa adiga calmaday oo TV-ga caasha geliye ma Soomaalida la calowdo codkooda ku dhibay wuxuu yiri risaaladii xambaarsantahay rabaa maahan anigu codkeeda muuqaalkeeda dan kamali midda aad dhageysatay risaaladeeda qaadaan iridana waa ka baxay markaan baxay xarunteydii aan tagay ayuu ii soo dhacay teleefankiisu wuxuu ugu yiri intaad iga soo maqnaad mujaahidiintu waa ka tashadeen go'aanna waa laga gaaray bari 6 saac ayuu waqtiga ku egi waxaan ku yiri ilaahay adoomada shasha waa ka qariyay yaa ku siiyay awoodda adigu aad ku ogaatay marka maalintaas ayaa waxaan go'aan ku qaatay inaan ka guuro haddii alla ku roon yahay Bakaaraha 3 bilood ayaan dib u sii deganay hase yeeshee 3 bilood maalin bashaay ayaan qaadayay dadku waxay u maleeyaan idaacadaas inay hal habeen soo guurtay ma soo guuray hal habeen muddo 3 bilood ayaan maalinba hal shay qaaday habeenkii u dambeeyay inta u dambeysay oo haddii alla ku roon yahay maksarkii iyo FM-kii iyo firdhisadii iyo inta hawada ku jirtay baa soo qaaday maahane wax kale oo alaabuhu ma isaaleen markaas iyadoona tallaabada ay Shabeelle ku soo guurtay ay carab ku abuurtay horjoogayaasha al-shabaab waa kan Axmed Cali Gees oo kamid ahaa horjoogayaashii waqtigaasi al-shabaab oo diinta ka saaray Shabeelle iyo shaqaalaheeda xilli uu telefoon u soo diray Abwaan Guure oo waqtigaasi ahaa agaasimihii Shabeelle qofku anigu wuxuu aan daahirkiisa ku arkaan ku xukumaa ma ku degdego waxaan ku leeyahay murtadiinatihiin waa noo dagaal waxaad ridadaan dhinacaas ka marteen sidii ridadayda cadda ridada u soo dhexdhexaadna ma aydin ninka Bakaara ka caradaa tahay murtadaa tahay munaafaqa oo saariqa hata anaa kugu xukumay
dhulkii muslimkaad isku aamini weyday xeradii gaaladaad gashay oo aadan idaacadda dhexdhexaadeen sida riddada idaacadda riddada inaad u shaqaynaydo waa ilaahay xamdigiis waaye yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicu aladiina kafaruu yaruduukum calaa caqaabikum fatanqalibuu khaasiriina gaalaad adeecday muslimkiina waad ka carartay midda labaad waman yatawallaw minkum fa innahu minhum taasaad ku ridowdeen labada mata saddexa fa xukma aljaahiliyati yabquuna waman axsanu xukman liqowmin yuuqinuuna xukun daaquud ah oo cilmaani ah ayaad hoos gashay kii muslimkana waa ka carartay yaab leeyahay ahayd barkii xasan cali gees waan qiinay haddii alla ku roon yahay weliba markaas ka hor wuxuu iska dhigi jiray odayaashii midnimada beelaha hawiye inuu ka mid yahay marka hal mar unbuu isbedelay oo ninkii waxaan aragnay haddii alla ku roon yahay maalin kastaba warkii idaacadda ka baxataa duubayo idaacaddii edhitagaraynayo haddii alla ku roon yahay dhegaysanayo saacad noo soo wacayo dhahayo warkaan aad hadda sheegteen sidaasaa loo qaadan karaa war sidii loo qaadan kara iska dhaafa ma yahay marka ninkii hal mar uu isbedelay oo aad u qabto haddii alla ku roon yahay wakiil idaacadaha loo xil saaray iyo kontaroolka iyo waxa ka baxaya ayaan aragnay hanjabaadihiisu ay xad dhaafeen oo xataa isku daya xataa haddii alla ku roon yahay marar badan uu noo soo diray kuwii wax dilayo ilaahay naga badbaadiyey marka sidaasay ahayd joogtay ahayd ilaa aakhirkii si warkoodu uu u dhammaado xiriirkeenu toos ugu dhammaado aan gaaro inaan idhaahdo wax kastoo amar ahoo ay soo saareen maanta wixii ka dambeeya waa joojinay maalintaas ayaan ammaan ka helay intii ka horeysay hanjabaada iyo digdigta iyo dhaarta iyo weerarkuba joogtay ahaayeen kooxda xusbul islaam iyo al-shabaab oo afkaar ahaan iska agdhowaa ayaa mamnuucay inay idaacadaha sii daayaan shanqaraha astaamaha u ah idaacadaha iyo suugaanta soomaalida waxayna taa beddelkeeda amreen in idaacaduhu ay baahiyaan nashiidooyin carabi ah dhammaan idaacadaha maxalligaana amarkaasi u hoggaansameen marka laga reebo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka saxaafadda waxaan amraynaa ama faraynaa amar cadna ku bixinaynaa laga bilaabo 10 beri asiina maanta laga bilaabo 10 beri 10kaas beri wixii ka dambeeyo idaacadaha waxaan rabnaa muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deynin muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deynin waa ognahay idaacado badan oo banaanka jooga in aad u carood doonaan oo reer galbeedka oo aad u carood doonaan waa ognahay galabta laga bilaabo beri laga bilaabo idaacado badan qaali doona saxaafadii ayaa la curyaamay doonaan marka curyaamiis maahan muustikadaas iyo heesaas islaamka kamid maahan marka waxaan rabnaa waxyaalaha wanaagsan oo khayrka inay sii deysiin tobankaas beri waxa ay siiyayno ma ahna macna munkar isla saaca in la suuliyo wahay laakiin anjalooyinka iyo wixii isku dhex qasnaa inaa kala saaratiin rabna laakiin markii la soo gaaray maalmihii xorriyadda Soomaaliya ayay haddana mar kale amar ku bixiyeen kooxahaas inaan la maamuusi karin lagana hadli karin taariikhda maalmahaas waxayna arrintaasi u cuntami weysay agaasimihii waqtigaas ee Shabeelle oo hadda agaasimaha idaacadda kulmiye Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo amray idaacaddii agaasimaha ka ahaa in la saaro heesaha xorriyadda go-aanka hore lagu joojiyey astaamaha idaacadda iyo wax dhan asaga ayuu ka soo baxay marka go-aankii ku qaraara ayaa shala ka soo baxay oo ahay lama xusi karo kowda luuliya ama lama sheegi karo ama lama soo hadal qaadi karo midaas oo aan u aragnay mid lagu inkirayo jiritaanka Soomaalida annaguna waxaan nahay saxaafad madax bannaan oo u shaqeysa ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan u aragnay go-aankaas inuusan ahayn mid la fuli karo marka qof aad go-aankiisii fuli weysana kiisii hore ma fuli kartid sidaa darteed go-aamadii ka soo baxay macallixaashi oo aan u aragno kuwo keligii asaga ku kooban inay yihiin waxaan garanay inaanaan fuli karin dhammaantood dhammaan maamul iyo shaqaalaba inta joogta Shabeelle waa ay ku faraxsan tahay go-aanka aan qaadan waa maalin muran iyo makeek mihare waa maalin ilaa ay maashee man maalu hashee man maadeeqe
xasan waxa uu sidoo kale ahaa tifaftiro qarsoon oo warbaahinta muqdisho ay lahayd waxaana uu ku maamulayay idaacadaha maxalliga cagajuglayn joogtaa oo ay barbar socotay inuu qaarajiyo kii ka madax adeyga cagajuglayntaas waxa uu sidoo kale xasan xanafi ku soo xiri jiray idaacadaha goobjoogayaal ka warbixiya meelaha ay wax ka dhacayaan kuwaasoo ka mid ah maleeshiyaadkooda oo iska dhigaya shacab ka agdhow goobtaasi anigu waxa aan sameeyey adigu oo wariye ah waxaa u baahan tahay cid aniga iga madax bannaan oo kuu xaqiijiso waa heli kartaa in fulaan kale ereydii wax aan ka samaynay jooga inaad la xiriirtid waxa uu kuu sheegi karaa xaqiiqda jirta laakiin anigu qof aan rabo waxaa laga yaabaa inuu askari uu yahay askari al-shabaab uu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa in xafiisyadooda ka shaqeeya inuu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa qof taageersan mabda'ooda inuu yahay laga yaabaa ayaan kugu soo xirayaa qofkaas waxa uu kuu sheegayaa waxa aniga aan rabo dadka marka aad idaacadaha ku xiri jirteen waa dad adinkeeda ka tagtay aad weyn waa lagu baraarugsan yahay runtii waa lay sheegay hay'adaha nabadgelyada oo kale akhbaaraadka aan ka helay waxaa ka mid ah in xogaha laga helay ay ka mid yihiin inuu yidhi maaragtay marka warbaahinta gaarka loo leeyahay qaar ka mida waxaan ku khasabnaa wararka ay sii daynayaan waa u tafatirnaa dadka soo wacaya ee ay codka u furayaan qaarkood baanu ku leenahay influence oo u magacuuna arrintaasi runtii haddee waa ficilada ay doonayaan dadkan nabaddiidka inay ku jahwareeriyaan ummadda Soomaaliyeed horta waa ay dhacday oo xataa waxaa jiray kuwa ay iyagu leeyihiin oo ay anaga wariyaal nooga dhigeen xataa dhacday oo waxaa dhacay haddii alla koro berigii lala dagaalamayay haddii alla koro yahay muqdisho dagaalku ka socday wiil tooshow la yiraaho wariye oo hadda ayaga ka mid ah wuxuu noo ahay goobjoogo wararka laga qaato oo jidka warshadaha iyo aagaas wixii ka dhaca haddii alla koro noo soo sheego ilaa aan kadib ogaanay inuu yahay haddii alla koro xiban ayaga ka mid ah oo u shaqeeya marka kadibna uuba noqdayba wariye toos oo warbaahintooda ka shaqeey marka waa ay dhacdaa waana joogto weliba waxaa dhaca ayadoo wax dhicin inta lagu soo waco lagu yiraahdo meeshaas iyo meeshaasaa wax ka dhaceen lagana yaabo meeshaas hal bumbo in lagu tuuray oo hal qof oo lagu dhuftay iyo wax ku dhintay midna aysan jirin marka ayadoon dhicin mararka qaar in lagu soo wargeliyaa dhici jirtay waxaa intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan holnay codad fara badan oo xasan xanafi marxalado kala duwan ugu hanjabayay wariyaal gudanaya waajibaadkooda shaqo waa kan mid ka mid ah codadka hanjabaadda ee laga duubay xasan xanafi isagoo wariye u sheegaya inuu dirqi kaga fakaday xilli ay dili rabeen maalinkii muus oo xamarweyne aad dirqi ku fakatay mardaba insha allah ma fakalaysa lama aha xasan xanafi oo ku jira gacanta nisa waxaan u helnay wakhti badan oo aan kula sheekayso waxaana xasan intii aan la joogay waxyaabaha iga fajiciya ka mid ahaa inuu i weydiistay sigaar waxaana uga qaaday qof iga agdhowa markaasi balse aan u ogaado waxa uu ku samaynayo wuxuuna shitay xasan xabad sigaar beensal ah isagoo qiiq badan ka daynaya afka iyo sanka kooxda ugus ee kis al-shabaab horjoogayaashoodu waxay ku nool yihiin nolol cabsi iyo argagax leh waxayna cabsida ugu badan ka qabaan sirdoonka Soomaaliya ee nisa waa kan xasan xanafi oo sharaxaya cabsida iyo walwalka ay nisa ku hayso horjoogayaasha maleeshiyaadka kooxda ugus dhexdooda xogta rasmiga ah ee aan hayaa waxa ay tahay waxaan ku raadaa maanta nabsuuda ama hay'adda nisa sirdoonka nabsuuda qaranka culayska ay ku hayso al-shabaab culays la soo koobi kara ma aha meeshaan aan ku jiraan ka dareemiyay culayska lagu hayo al-shabaab waxaan ku arkay rag xildhibaano soo dilay halkaan aan ku arkay oo la soo qabtay rag maxaan ku raadaa dad soo dilay ama gudoomiye waaxeed soo dilay ama dad dawlad ka mid soo dilay halkaan aan ku arkay rag miinooyinka u qaabilsanaa jira al-shabaab waa iga soo horeeyeen halkaan aan ugu imdanay soo ay dariiq maanta shabaab nisa waxa ay ku hayso culays ugu weyn ma jiro sidaasi la mida warbaahinta qaranka waxay iyana ku noqotay utun kooxdaasi ugus waana tan keentay in loo ciqaabo horjoogihii codkiisa laga maqlo warbaahinta qaranka oo inta badan raadisa codadka horjoogayaasha maleeshiyaadka kooxda ugus xasan xanafi oo ka mid ah horjoogayaal ka tirsanaa kooxda ugus oo tiro ka dhowr jeer ay codad ka qabatay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya xaaladaasu dareenka ay ka dhex abuurtay kooxda ugus iyo isaga lafahantiisa dhibaatooyinkii ka soo wajahay
والله نحدن وما دنا قف الشباب إن عد دولته أي أربعين تدك قبضته نحدن وما دنا waxa uu ka naxayn codkiisa ma aha waxa uu ka naxay waa culays la saarayo way codka loo laga qabtay cod badan in ay qabto oo ahay si saaxiibtinimo iyo si guud dad badan soo wacayeen cod badan ay qabteen wax xasuusanahay culayska al-shabaab aan kala kulmayay wax inta ku yaal ma ahayn ziyaadan kala kulmayay heer godone anoo joog guud oo soo waco oo yiraahdo inuu soo marax fiiskiisa oo yiraahdo hay maad shabeelada hoose ama shirgoona oo leeyahay wayniyo xasan xanafi intii aan la joogay waxaan ku arkay isbedel dhinaca muuqaalkiisa ku yimid markii ugu dambeysay waqtigii uu ahaa saxafi ka shaqeeya magaalada Muqdisho waxaa xasan hadda ka muuqanayay dhaawacyo kuwaas oo sida la rumaysan yahay ka soo gaaray dagaalo dhowr ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan isaga la fahantiisa weydiiyay xasan dhaawaca ugu ballaaran ee wajigiisa ka muuqda waqtiga uu gaaray iyo sida uu dhacay dhaawacan wuxuu gaaray insaan qiyaasay sanadkii 2011 markii ciidamada Burundi ay damcayeen inay deyn la galaan kuwii gulid jalsiyaad ka dhaqaaqay Burundi faraha badan maxaan ku raadaa isha lagu leeynay ayaan maxaan ku raadaa isha oo gaaray hoobi inuu ahaayaan rajeynaya oo aan aaminsanahay hoobiyahaas aan ugu dhacay koox yar oo dacayadu sameeya al-shabaab waxay ku naqdiyaan waraysiyada aan qaado inay yihiin kuwa lagu qasbo dadka aan waraysanayo oo loo geyso jirdil iyo wixii la mid ah waxaan haddaba hordhigay xasan xanafi in lagu qasbo waraysigan uu siinayo iyo inay jirto jirdil loo geysay si uu sheegto waxaan jirin halka qol number 4 la yiraahdo room 4 la yiraahdo ka deganahay waa la soo baxay waxa isdhaafsanan inay jirin marka laga reebo in qorshuhu uu yahay sida tan ha iyo ma toonana maxaan ku raadaa ii sheeg ma dhihin ha baan soo irin ma toonana soo maanan oran soo jirdil wax la ilaalay ma geysan mana la geysan doosan dhaneertu waxaan u sheegayaa meeshu saad u moodin ma ahaanay si u taala ila arko يونس ومغا afgarashaha ay kooxda al-shabaab u yaqaanaan waana shakhsiga bedelay xasan xanafi markuu ku fashilmay wariyaasha يونس wariyaashu ma aqoon ka hor dilkii Saciid Haliil laakiin markii la dilay Saciid ay wariyaashu sas ka qaadeen xasan ayay kooxdu يونس u xil saartay inuu la macaamilo warbaahinta haddaba يونس waa kuma sirdoonka Soomaaliya ayaa intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijkan igu caawiyay sawirka يونس oo aan horey loo hayn waxaana markiiba aan tusay sawirkaasi xasan xanafi oo aan weydiiyay inuu yaqaan iyo in kale wuxuuna xasan xanafi ku jawaabay يونس si fiican oo qala يونس waxa weeyaan hadda anigu noola ii dhintay ma kala garanayo laakiin markii war dambeeyay galguduud uu joogay Ceelbuur uu joogay dabadeeto galhareeri uu joogay qoryoolay mar yimid aan isku aragnay intaanan bixin ka hor maxaan ku raadaa isha soo sii socda galguduud يونس hadda waxa weeyaan masuulka meeshii aan joogo shalay xiriirka al-shabaab iyo warbaahinta u dhaxeeya ama maxalli ha international aadaan ama kuwada ha ahaadaan maxaan ku raadaa isha masuulkooda weeyaan asoo naa'ibka ama ku xigeenka maktabka iclaamka amiirkooda ah يونس markii uu la wareegay xafiiska warbaahinta al-shabaab waxa uu bilaabay isna in sidii xasan uu wariyaasha handado waxaana ka mid ahaa wariyaashii u hanjabay Allah u naxariistay Liibaan Cali Nuur oo markaasi ka shaqaynayay idaacadda maxalliga Simba laakiin markii dambe cabsi uu ka qabo يونس ugu soo biiray warbaahinta qaranka waxaana يونس iyo Liibaan dhexmaray sheekadan halo يونس niyo noo sheeg arintan waxaan rabnaa inaan wax ka sheegnay ana wax weey sheegnaa daawno ya daawno ku kacsanaysaa maxaa dhacay waxaan ku weydiiyay xal markaa wareysanayay maxaa la ii sheeg qeylo Afrika ku handilay miya aniga wuxuu igu handida Afrika iska quseeya idaacad la magac idaacad la macnaha ii sheeg wax loo sheegay oo xisbul islaam sheegeen iyo Djibouti maxaa iska quseeya niyo Yoonis oo anaga dhan si kala noo aragtaa saaxiibo wallahi bidaat adini wallahi ma si kala ku arkaa adina been ku sheegay Abdulaziz Afrika oo maadsan dhiiridiisa haddii cadowgiisa maqlaan geedahay ka baxaan ninkan codkiisa hadday maqlaan geedaha ay ka baxaan waa dambadaan aad buu maadsan yahay
dowladda Soomaaliya waxa ay dul saartay madaxiisa horjooga Yunis adduun dhan $30,000 cidii keenta macluumaad ku aadan sidii loo soo qaban lahaa horjoogahaas Yunis oo wixii ka dambeeyay Xasan Xanafi isagu mas'uul ka ah dilalka wariyaal ay ugu dambeysay Allah u naxariistay marxuumad Hindiye Xaaji Maxamed oo dabayaaqadii sanadkii tagay ay qarax gaarigeeda ugu xireen kooxda ugus kuwaas oo dadkii fuliyay ay ku jiraan gacanta nisa hase yeeshee maskaxda ka dambaysa wariye la dilo wixii ka dambeeyay markii Xasan Xanafi oo shaqadaasi ka wareegay waxa kooxda ugu xilsaarnaa Yunis oo hadda ay dowladda Soomaaliya abaalmarin lacageed oo $30,000 gaaraysa ku bixinayso soo qabashadiisa wixii waqtigaasi ka dambeeyay Liibaan Cali Nuur wuxuu ku soo biiray SNTV oo ka noqday madaxa wararka iyadoona aakhirkii al-shabaab ay ku dileen maqaayada hooyooyinka Xasan Xanafi Xaaji waxa uu muddo ka mid ahaa kooxda al-shabaab waxaan weydiiyay maalinna intuu ka mid ahaa kooxdaasi inuu ku fakiray inuu isqarxiyeen kale hadda ka hor maya hadda kadibna maya xasan shalay uu ku qanacsanaa ka mid ahaanshiisa kooxda al-shabaab isagoo aan la qasbin ayuuna muddo u qabanayay howlo kala duwan kooxdaasi laakiin maanta wuxuu ku doodayaa inuu ka qoomameynayo noloshiisii al-shabaab markii aan xasuusto noloshii maxaan ku raahdaa ii sheeg al-shabaabna runtii wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa waa isku bedelaya qanaacad guudna actually si dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto aan ku raahdaa ii sheeg al-shabaabna runtii wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa waa isku bedelaya qanaacad guudna actually si dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto Xasan Xanafi oo ay sirdoonka Soomaaliya nisa ka soo qabteen xadka Soomaaliya Kenya ay wadaagaan xilli uu doonayay inuu gudaha Kenya galo ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen inuu waqtigaasi doonayay inuu u socdaalo qaar ka mid ah wadamada Yurub ama Ameerika Yurub ayaana u sii socday liajligeedina u socday dad ayaa dhahay visa waxaan haynaa Mexico oo Yurub oo Mareykanka ah dad waxay dhahayeen visa waxaan Ukraine oo Yurub saas loogu galayo Germany iyo Poland iyo wadamada xuduudda la leh saas loogu galayo dad bas si aragtidooda dhiibay laakiin anigu qaasatan waxaan rabay Jarmalka inaan aado ama Ingiriiska inaan aado labadaas mid baa ii qorshaysnay Xasan Xanafi oo 32 jira waxa uu hadda ku jira gacanta nisa wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo oo aan loo maxkamadeyn dambiyadii uu geystay waxaan codsan lahaa dowladda Soomaaliya waxaan ku raahdaa ii sheeg gacanteeda hadda ku jira shalay waxaan ka aaminsanaa si aaminsanahay waa u sheegay waxaan ku raahdaa ii sheeg bal haddii la fiirinayo xalka buugan xariista in la fiiriyo insha Allah laakiin wariyaashu saaxiibadood dilay iyo helada dadkii uu dilay ayaa ku adkaysanaya inay arkaan Xasan Xanafi oo la hor keenay cadaalad wallaahi waxay ila tahay Xasan waxa uu dadkan iyo dalkan u geystay isagoo qof ah wax aad u weyn weeyaan dhibaato aad u weyn weeyaan waxa la helayaa maanta wax ku dhow 100 caruur oo Xasan khiyaanooyinkii dambiyada uu mareegay u agoontooday waxa qabriga ugu jira dad ka qiimo badnaa isaga oo soodomeeyo ku dhow oo nuucyo kala duwan ahaa waxa uu sabab u noqday in wadankan ay ka qaxaan dad ka badan 100 qof oo saxafiyiin anigu marka aragtideeda qof ahaaneed waxay tahay Xasan wuxuu mudan yahay waxa cadaaladdu ay qabto inuu maro oo cadaaladda la marsiiyo waxaan si caad ah markaan u ogaa inuu ka dambeeyay dilka la naxariistay Abi Saciid Axmed sanadii 2009 bishii labaad afarteeda oo aan arbacaha ku beegneed saacaduna ay 7:00 doornimo marka hadda waqtigan waqti uu cafis dalab badan ma aha anigu waxaan qabaa oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qabaan in sharciga la marsiyo oo lagu xukumo dil toogasho si ay ugu waan qaataan kuwa kale dhagar qabayaasha wallahi kulli Xasan Xanafi aniga waxaan codsan lahaa wixii uu xaq u leeyahay oo maaragtay
maxkamadii ku xukunto oo dembigu gala ah in laga jaasiyo kulle aniga taasay ila tahay sababto waxay tahay xasan dembi aan yareen uu galay qof walbana dembigu galay inuu maaragtay ciqaabteeda u helo wax meesha ku jira waxaanan codsanayaa oo aan in badan codsanayaa haddii alla ku roon yahay in la mariyo abaalkiisa oo dembigii uu galay oo ciqaabtiisa maro sababtoo ah waa dilaa laayay dad badan marka weliba waxaan ku tali lahay inaan hal mar la dilin ee la dilo haddii alla ku roon yahay maalmo badan in la dilo ayaan ku tali lahay marka sharciga in la hor keeno waxaan qabaa in cadaaladda la mariyo haddii wax ku cadaadaan ninkaas wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay u diyaarinayso Xasan Xanafi inay horgeyso cadaaladda si loogu ciqaabo dunuubtii uu geystay. Xasan Xanafi waxa la horgeynaya cadaaladda dilalka badan ee uu geystay wuxuu ka tirsan yahay ururada nabadiidka ayuu ka tirsan yahay al-shabaab iyo al-qaacida ka tirsan yahay qofkii aan isi soo dhiibin isaga oo aan dembi gacanta kula jirin oo lagu qabto qaabka Xasan Xanafi oo kale isaga oo ku dhex jira dembiyadii intaas oo qof dilayna sharciga dawladda uga yaala waa in la horgeeyo sharciga oo ciqaabta uu mudan yahay la marsiyo marka isaga iyo kuwa kale gacan ku dhiiglayaasha ka dambeeyay ficilkii ugu dambeeyay hadda liida ka dhacayay ee aad arkaysay sida loogu xasuuqay dadka shacabka caruurta maatada qoysaska dadaroosa wuxuu ka tirsan yahay Xasan Xanafi maragtay urur argagixisa oo aan naxariis lahayn oo dadka Soomaaliyeed diintooda iyo sharafkooda iyo dhiigooda banaystay marka waxa la marsiin doona ciqaabta uu mudan yahay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay waqti kasta heegan ugu jiraan ilaalinta amniga guud ee qaranka waxaan kormeer guud ku soo marnay magaalada Xamar dhamaanteed meel walba aan soo tagnayna waxa heegan ka ahaa ciidamada qalabka sida waxaan soo aragnay shacabkii oo diyaar u ah inay dawladda la shaqeeyaan amniga ay wax ka sugaan heegankaas ayaan lagu jirayaa ciidamada amnigu waa inay hawshooda qabtaan oo ay la dagaalamaan cid walba oo qalalaaso ama wixii criminality activities ama falal dambiyeed cidii wado inay la dagaalamaan waxa kale oo aan rabnaa in shacabka iyo ciidamada amniga ay si fiican u wada shaqeeyaan dhinaca kale waxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA markii ugu horeysay soo saartay awaamiir ku aadan la xiriirida iyo macaamilka maleeshiyaadka kooxda ugus ee al-shabaab war ka soo baxay NISA waxaa lagu sheegay in muwaadinkii lagu helo inuu telefoon kula xiriiray qof ka tirsan kooxda ugus inay tahay dembi loo ciqaabayo sidoo kale waxaa iyaduna dembi ah in lacag loo qabto ama loo kala gudbiyo kooxda ugus waxaa sidoo kale iyaduna dembi qaran ah in macaamil dhinac ganacsi ah lala yeesho cid ka tirsan kooxda ugus ee al-shabaab inkastoo dadkeenu dulmiga uu ka simayo dooxatadu xasuuqaan haddana waxa u sii daran duulkaan habaaranay saxaafadda ma daayaan warbaahintuna ma daayaan dabley aan la garan baa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kama daali doona dadweynuhu ogsoonow shacabkuna ma daayaan waayaaba yaa dilay maxaa wariye loo dilay ma la helay kuwii dilay hay-adaha duniduna u dulqaadan mayno iyo cambaarayn ma daayaan guud ahaan barnaamijkeennii dilaaga wariyaha oo uu ii farsameeyey kaameradana ii hayay saaxiibkay Moho Caraye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.